السلام عليكم كلنتي وعن أو ونكسن داوديال كنا سو دواده برنامج gaar ah oo caawa aan idiin soo diyaarinay inagoo ah suxufiyiin Soomaaliyeed isla markaana aynu kaga hadli doono xaaladda dalka uu xilligan ku sugan yahay iyo waliba wariyaasha ka shaqeynaya barnaamijkan waxaan caawa ugu talagalnay oo si gaar ah ugu socdaa saxafiyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda ku sugan gudaha dalka Soomaaliya waxaa igala qayb qaadanaya rugcadaayin suxufiyiin Soomaaliyeed oo ku kala sugan dunida dacalaheeda inagoo markaasi barnaamijkeena uga gol leh in aan markaasi ana ku siino talooyin amaba warbixino amaba experience-geenii aan lahayn xilligii aan ka shaqeynayna gudaha dalka Soomaaliya xaalado adag ayaa lagu jiraa wariyaashu waxay wajahayaan xaalado adag maadaama dalkuna uu wajahayo wariyaashu qayb ayay ka yihiin dadka ugu horeeya oo dib walba u nugul ayay wariyaashu yihiin barnaamijka caawa waxaa igala qayb galaya Axmed Muuse Cabdulle Idaa Waqaca oo ah wariye Soomaaliyeed waqti dheer kasoo shaqeynayay miidiyaha gaar ahaan miidiyaha Soomaalida sida goonida ay u leedahay idaacaddii Horn Afrique wuxuu ka mid ahaa reporteradii ugu firfircoonaa ee sida weyn loo garanayay ee xilliyo adagoo badan soo report gareeyay sidoo kale wuxuu kasoo shaqeeyay idaacadda BBC-ga isagoo markaasi xilliyo kala duwan iyo weliba xaalado kala duwanba soo maray oo inooga sheekay doono sidoo kale barnaamijka waxaa iigu martiya Aamina Muuse Wehliye Cadow oo iyaduna ah saxafiyad Soomaaliyeed ka sheekay maayo mar haddaad magaceeda maqashaan qof walba oo Soomaali ah wuu garanayaa Aamina ciday tahay Aamino waa gabar saxafiyad Soomaaliyeed ah muddo dheerna kasoo shaqeynaysa saxaafadda dhinacyo kala duwan iyo weliba goobo kala duwanna kasoo shaqeysay Xasan Muuse Sabriye ayaa ka mid ah martida caawa barnaamijkan igula sugan Xasan wuxuu ka mid yahay reporteradii xilli adag oo xaaladdu adag tahay Soomaaliya kasoo shaqeeyay idaacaddii Horn Afrique weliba xilliyo kala duwan oo farxad iyo dhibaataba leh soo maray waxaan siinayaa marka ugu horeysa Aamina Muuse Wehliye Aamina kusoo dhawow barnaamijkan gaarka ah oo caawa aan ugu talagalnay in aan talooyin ku siino saxafiyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku sugan gudaha dalka Soomaaliya waxaan filayaa waa mahadsantaha canab hay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu adiga iyo asxaabta barnaamijka nagala qayb gelaysa waa mahadsantiin Aamino adaa mudan intaa iyo inka badan ayaan ku mahad celinayaa muddo dheer ayaad kasoo shaqeynaysay miidiyaha barnaamijkanna maanta waan wada diyaarinay oo waxaan ka damqanay walaalaheena Soomaaliyeed saxafiyiinteena saaxiibadeena gudihii dalka ka shaqeynaya xilligan adag Aamino intii aad gudaha ka shaqeynaysay dalka Soomaaliya waxyaabo badan ayaad soo aragtay markii aad dalka kasoo baxday oo aad wadamadan qurbaha imaatana experience-gaaga wuu sii ziyaad waxbarashadaadii dhanka miidiyaha ayaad usii qaaday maxaad is leedahay doorashada xilligan taagan iyo saxafiyiinta Soomaaliyeed iyo qalalaasa maxaad ugu baaqaysaa wariyaasha horta baaqba maahe waa iska talo maxaa yeelay baaq iyo talo waa kala labo horta xilli adagaa lagu jiraa mar walba laakiin suxufiga xilsta oo shaqaynayo waxay tahay meel aadan kelino aad nabad ku ogeyd inaa aado ayaa khatar kugu soo sugnaa kartaa marka maadaama barnaamijku bilow yahay oo wax badan laga hadli doono anna aan jeclaa wax badan dul istaago horta waxaaba ka horeysaba suxufiyiintan amnigooda iyo nabadgelyadooda inkastoo dadka lamid yihiin maadaama ay ayaga yihiin dadkii wararka dhacdooyinka farxadda leh iyo tan naxdinta leh iyo tan meesha khatarta leh ka socotaba ay soo tabinayaan in ayaga amnigooda aad ay uga fakaraan isla markaana ay helaan tababaro ku saabsan dhinaca amniga canab tababarada waa kala jiraan qaarna waa kan dhinaca saxaafadda qaarna waa dhinaca amniga sida tababarka la yiraahdo hostile environment amaba loogu talagalay in la siiyo wariyayaasha ka shaqeynaya meelaha khatarta ah waa tababar qaas ah oo la bixiyo adduunkoo dhanna ka jiro dal walbana la rabo inuu suxufiyiintiisa u diro haddee suxufigu u shaqeeyo idaacad madax bannaanna idaacaddaas la rabo inay xil iska saarto lacag ku bixiso u soo kirayso dad tababarkaas bixiya oo suxufiyiinta tababara wax kale maaha ilaahay awood ilaalin kara awood lama ilaalin kara laakiin suxufiga waxaa la baraa sida oo ugu dhex badbaadi lahaa marka uu ka shaqaynayo meelaha khatarta ah insha allah aad ayaad umahadsan tahay Aamino
waxaan siinayaa axmed muuse abdulle idaa waqaca oo isagoo ah isku soo dabaridaha barnaamijkan farsamayaqaanka caawo la-aantiis aanay noo suurta gasheen in aan hawadan soo galno adoo aada u mahadsan idaa waqaca suxufiyiinta soomaaliyeed waa su-aashii aamine aan weydiiyey mid lamid ah ee gudaha ku sugan xilligan adag qalalaasaha iyo doorashada iyo shaqadii xiliyadii ay ugu adkeed iyadoo lagu guda jiro maxaad suxufiyiinta tala siinaysaa aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay canab axmed yare gabar soomaaliyeed wariye ah qaali nagu ah ayaa tahay aad baan kaaga mahad celinaynaa fursaddan qaaliga ah iyo dareenkan dhabta ah ee adiga ka yimid kadib markii aad ka damqatay wariyaasha soomaaliyeed shaqada culus ee kusoo socota ee doorashada ah taas oo ah runtii howl baaxad weyn dhibaatooyin aad u fara badanna lagalama kulmi karo doorashada sideedaba wariyuhu sumcad iyo sharaf badanna waa kala kulmaa qalalaaso iyo dhibaato iyo xarigna wuu kala kulmaa marka waa midi laba af leh oo malab iyo kharaar meel ku wada yaallo weeye doorashadu marka waxaan rajaynayaa siday aamina u sheegtay tababarkaasi waa qaali aad iyo aad ayuu muhiim u yahay anigu waan qaatay markii tababarkaas aan qaatay waxaan is iri wixii ka horreeyay khatar inay nafteedu ku jirtay tababarkaas wuxuu ku barayaa markaan soo gaabina xataa sida wax loo cuno raashinka aad cunayso xataa wuu ku siinayaa wuxuu ku leeyahay raashinkaas tusaalehaan xalwada ma ogola tababarkaas marka caafimaadkaa uu ka shaqaynayaa horumarkaa uu ka shaqaynayaa jiritaankaa uu ka shaqaynayaa maaragtay shaqadaada ayuu sahlayaa ilaha aad wararka ka qaadanayso ayuu sahlayaa editirada qaarkood inaad ku diidi karto wax kasta oo ammaankaaga wax u dhimaya ayuu tababarkaasi muujinayaa marka waa tababar uu u baahan yahay wariye kasta oo Soomaali ah oo maaragtay ka soo warrama meel ay colaade ka jirto markii dambana annaga aamina weyba ogeeda waxaa nalagu xiray qofkii aan tababarkaas qaadan xataa inuusan war soo diri karin marka waa war muhiim ah waa tababar muhiim ah wax kastana ka qaalisan weeye lacag badanna ay ku baxayso laga yaabo in waddan kale lagu diro tusaale ahaan Afrika joogta inuu tababarkaasi Aasiya ka dhici karo inuu ka dhici karo Yurub inuu Mareykan ka dhici karo because sanado ka hor ayaa lasii qorsheeyaa marka waa wax wariyuhu tahsiilaadka u baahan waxa ka mid ah passport flexible oo wadamadaas lagu tagi karo kale inuu haysto oo markii la yiraahdo tababarku halkaas uu ka dhacaya Mareykanku kale uu ka dhici karaa waa inuu qofkii adinkoo kale hadda passport wada European ah haysataan coronavirus ka hor waad imaan kartiin waddankan waa in marka wariyihii uu wariyo isku toosan sharci fiican haysta meeshii tagi kara yahay marka uu u sahlanaanayaa inuu tababarkaas qaato marka in kow tababarkaas la qaato waxyaabaha khatarka ah waxa aad ka soo warrami karto waxa kuu bannaan waxa aan kuu bannaanayn inaad ogaato naftaada war u qalmaa ma jiro wax kasta waxaa ka sarreeya naftaada iyo ammaankaaga tusaale ahaan haddii lagu yidhahdo maanta Solex sida Yutan joogaa haddii maamulka Solex ka jira uu yidhaahdo kama warrami kartid idaa waqacad kama warrami karo Solex waxay ku qasban tahay hay-addii aan u shaqaynayo inay wariye kala qorato sababtu waxay tahay aniga waxa la ii qoray war inaan ka shaqeeyo kontraktigigaas hadba meel igu tuuraya kadibna iska baxaa leeyahay marka waa inaad ilaashato sumcadaada dadka deegaanka aad joogto waa inaad sumcad ku dhex leedahay waa inaadan ayaga buubuunin waa inaadan been ka sheegin waa inaad sharciga ilaaliso marka muhiimaddu waxay tahay waa in la helo tababar wariyaashaas ayna ogaadaan isha keliya ee wararka laga qaadan karaa inay tahay maamulka markaas la isku raacsan yahay hay-adda maaragtay komishinka doorashooyinka hadda anigii canab aan tartamayno oo canab iga rayso meel la soo istaago madaxweynaan ahay oo wariyihii uu soo gudbiyo hadhowdii waa wareer oo cadaalad darreed aniga madaxweyne ah waa dhigi kartaa doorashadii hebel waa ninkaasi doorashadii ugu diiday wuu qaadacay hadalla sidaas waad ka geli kartaa barnaamijka laakiin officially idaa waqaca madaxweyne ah haddaad tidhaahdo waa dhib hay-addii iyo wixii loogu talagalay iyo programyadii iyo dadkii u xil saarnaa meesha warka laga qaadanayo adigoo baal maraya marka sharafayna ii tahay inaan aamine iyo xasan iyo canab iyo halkan la joogo wariyaal kalena ay la daawanayaan kuwo kalena ay nagu soo fiiri doonaan aad baad u mahadsan tahay arag adiga mudan axmed idaa waqaca xasan muuse sabriye waqti dheer ayaan kasoo shaqaynay gudaha magaalada muqdisho oo nidaam uusan ka jirin dowlad la-aan ay ka jirto xaalad adag lagu jiro aana u babacdhigaynay xabadda iyo dhibaatada iyo dad markaasi jaahilahoo qorya haysto oo aan la shaqaynaynay aniga adiguba
xilligaas adoo dib u xasuusanaya xaaladii aan ku shaqaynay oo adkeed oo saaxiibo badan oo kamida saaxiibadeeni aan isla shaqaynayna aan ku weynay isku fiiri labada xilli maxaad leedahay wariyaashan maxaad ugu baaqaysaa adigoo markaas soo xasuusanaya xaaladii aad soo martay عنب ومعصن تهي السلام يا دمانتين أحمد موسى عبد الله الوضعة من موسى ولا شيء عنب أنت بالسلام يا لنا حتى بردا وحكى هالله ولا شيء عبنا يولا وقع يا كهالله وياش بعين تبردا سي لنا عبد الرشوين كه يولي بس ده أي نفط بعد اللي هي نحل جال هذا ذلك هو قليل waxaan u soo joogay oo aan dalka ka soo shaqeeyay ama aan reporter aan ka soo dhaqay xilli aad u adag oo ay hogaamiye kooxeedyada dalka ka talinayeen kadibna ay ugu dambeeyeen maxaakiimtii iyo al-shabaab iyo dhibaatooyin fara badan ayaan kala soo kulmay inkastoo aan tababarada ay sheegeen aamina iyo axmed inta baan helin aniga oo ayna fursadda ii saamixin haddana waxaan ku shaqaynayay qaab waayo aragnimo aan maadaama inta badan xilaalada aan dalka ku adeegsanayo way aragnimadayda saxaafadeed iyo way aragnimadayda aan u leeyahay rabshadaha iyo dagaalada ayaan ka soo shaqeeyay marka waxaan ugu baaqi lahaa dhammaan wariyaasha Soomaaliyeed ee jooga gudaha Soomaaliya in marka ay warka raadinayaan waxa ugu muhiimsan oo loo baahan yahay inay ilaaliyaan ay tahay naftooda sababtoo ah marka naftooda ay badbaadiyaan ay warkana markaasi bulshada ay gaarsiin karaan laakiin haddii ay tagaan goobaha rabshadaha ay ka jiraan ama ay warka ka raadiyaan goobahaas oo kaleeto waxaa dhici karta in dhibaatooyin fara badan ay soo gaarto warka waa la heli karaa siyaabo kala duwan ayaan lagu heli karaa laakiin waxaa qaali ah nafta ayaa qaali ah marka waxaa muhiima qofka inuu naftiisa badbaadiyo isagoo ka taxadirayo xaaladda dalka uu ku sugan yahay dadkana warka gaarsiinayo marka kolley tababarada iyo dhanka kale waa laga hadlay aniga waxaan u soo joogay dhibaatooyin fara badan oo dalka ka dhacaya wariyaal fara badan oo saaxiibada ayaa ku dhintay shilal badan ayaan ka badbaaday sidoo kaleeto oo anigoo warar soo tabinayo oo bulshada u adeegayo laakiin way aragnimadeeda ayaan adeegsan jiray xilligaasi haatana waxaan kula dardaarmayaa dhammaan wariyaasha dhalinyarada ah cusub oo dalka jooga ee ka shaqaynaya xilligan adag in ay naftooda marka hore badbaadiyaan kadibna ay bulshada warka u soo tabiyaan aad ayaad u mahadsan tahay xasan muuse sibriye barnaamijkan wuxuu si qaasa ugu socdaa sidii horeba idinku sheegay wariyaasha Soomaaliyeed ee ku sugan gudihii dalka Aamina Muuse Wehliye haddii aan kugu soo laabto inkastoo muhiim ay tahay in tababar la qaato oo wariyaasha tababara ay qaataan kuwa aan helin ayaa jira kuwa aan hal tababar helin oo wariyanimada iska soo galay si yaroo fudud ayaa u badan reporterada magaalada Muqdisho xaalad adag ayay ku sugan yihiin banaanbixii shalay ugu dambeysay qatarta ugu weyn waxa ay taabanaysa waxay ahayd wariyaasha noocaas oo kale ah aanay suurtagal u ahayn inay tababar helaan ama hay-adda warbaahinta ay ka shaqaynayaan inay ku caawiso inay wariyaashaas tababar u samayso sidee naftooda ku badbaadi karaan marka xaalad noocaan oo kale ay timaado kaba soo qaad banaanbax ayaa dhacaya wariyaashu sidee u wajahayaan xaaladaas Aamina okay canab horta waxa loo baahan yahay wax kasta oo la samaynayo inay jirto cid lagala xisaabtamayo oo mas'uuliyadeeda iska leh aniga hadda 4 wariyaan nahay oo isku soo horjeeda afarteena maanta inta wax go'aansano dad kale aan ku caawin karno awood ah ma kala ma jirto maxaa yeelay dhinaca aan ka hadlayay iyo hostile environment-ga waxa waaye waa security issue waxa waaye wariyaha haddii la afduubo sidoo u dhaqmi lahaa oo xataa afduubay soo u badbaado oonay u dilin soo u dhaqmi lahaa intaan la afduubin oo laakiin qatar duub meel ay ka jirto oo ku sugan yahay soo ilaalin lahaa qalabkiisa soo u xafidi lahaa xogtiisa iyo wararkiisa soo u xafidi lahaa si aynan xogtu u noqon wax lagu dilo inta codka uu duubay la dhageysto ama sawirka uu qaaday ama video duubay marka waa security issue ama dawlad ama hay'adda iska leh warbaahinta hoos wax qaba laakiin mid la sameyn karo waxa waaye oo ugu yar oo la sameyn karo wax wariyaashu inay iyaga experience-gooda iyo khibradooda isdhaafsadaan oo qofka kale wuxuu ka roon yahay oo u sii sheego hadda shalay qatar badan aan arkaynay markii sawirada oo banaanbax la soo sawiraay
wariyayaal badan oo derbi ku dhegan kii qoriga sito ag maraya hal mar qoriga kusoo jeedaya ku filan ma garatay kalana wariyayaasha ugu badan marka aad noqoto dadka public shaqeeya oo shaqooyinka public ah qabta dadka ugu waa wariyayaasha iyo dhaqaatiirta oo caafimaadka because ayaga meeshii balaaya ka dhacdana waa taagan yihiin meeshii laga barwaaqaysan yahana waa taagan yihiin marka walaashay ma accountability jiray iyo cid lala xisaabtamaayo aniga waxaan qabaa hay-adaha warbaahinta in ayaga cadaadis lagu saaro dadka iska leh because wariye walba hay-adoo ka hoos galaa oo ka howlgalaa adoo wariye walba ka howlgalaa canab telefishonoo ka tirsan yahay wariye kasta ama wuxuu ka tirsan yahay radio okay inkastoo hadda wariyaashii ay si madax bannaan u shaqaystaan oo ay noqdeen wax la yidhaha content creators oo ayaga inta baxaan ayaga iskood u shaqaysanayaan oo ayaga material soo aruursanayaan dad badanoo iskood u shaqeeyaa jiro laakiin wariyihii meel ka tirsan waa in hay-addaasi aynan wariyayaasha sidii deera soo guray dhihin oo ay xil iska saartaa amnigooda annaga laakiin annaga wariyayaan middoon isku awoodno waxaa waaye in aan annaga qofba qofka kale wuxuu dhaamo ya qofba qof kale wuxuu dhaamo tababarka kale waxa uu soo qaatay inuu qofka u sii gudbiyo inuu jiro TOT wax la yiraahdo trainer of the trainers adduunka oo dhan qaasatan dunida soo korayso oo dhan qaabkaas ayay ku meel martaa qofka tababaro soo qaadanaa qof kale u gudbinaa ma garatay marka ina annagu isdaryeelno ina institution samaysano ina annaga sida hadda annaga ka hadda adigu noo bilaawday adiga iyo xasan iyo aad noo bilowdeen oo kale hadda noo samayseen oo kaleeto in institution sameeyo tababarba qofka kaleeto wuxuu awoodo u gudbiyo la annaga isu naxayne laakiin haddaa runti rabto waxaa masti ah in hay-adaha warbaahinta ee loo shaqaynayo inay xil iska saaraan securityka wariyaasha u shaqaynaysa iyo tababaridooda waa ka baxay walaashay aad ayaa u mahadsan tahay aamino axmed muuse cabdulle adiga ayaan ku siinayaa mar kale marka xaaladan oo kale ay taagan tahay axmed sida aan ka warqabno xiliyo adag ayaad soo shaqaysay reporterna waad soo ahayd xaaladii shalay aad ku jirtay dib ugu laabo markii aad soo tabinaysoo kale shirkii embagaati oo kale oo xilli doorasho fawdo badan inkastoo aan xabado la isku haysan waan soo dhaweynaynaa walaalkay soo dhawow inkastoo aan xabado la isku haysan oo xabadu aysan dhacayn waxaa taas dhinac ordaysay in kuraas laisla dhacaayay dhibaato badan inay ka jirtay xaalada adag inaad soo tabinaysay mararka qaar ay aad u adkeed inaad soo gudbiso kala doorashada wararka marka ad gadaal adoo u laabanaya ee xilligii reporterka aad ahayd adoo naftaada la simaya walaalahaaga soomaaliyeed ee maanta gudaha ku jiro oo xabadda hortaagan maxaad leedahay arrintaas waa su-aal adag fiicanna muhiimna ah dhinacyo badanna taaban doonta insha allah bismillahi kariim runtii wariyuhu marka uu warka soo tabinayo ama marka aad dhacdada joogto dareenkaagu ma joogo isma ogid waxa aad tabinayso xaaladdu siday tahay 257 mudane lagu daray guddigii doorashada lagu daray marti sharaftii lagu daray dadweynihii kaloo yimid ayaa dagaal u dhex maray doorashadii baarlamaankii ugu horreeyey ee soomaaliyeed madaxweyne cabdullahi yuusuf lagu soo tartay iyagoo isu dagaalaya ciidan ethoobiyaanihii waddanka ha yimaada iyo yuusan imaan marka waxay ku xiran tahay producerada stuudiyaha fadhiya ee warka aad u dirayso inay yihiin dad dhisan oo ka naxaya mustaqbalkaaga iyo tan idaacadda labadaba marka producerka barnaamijka soo saaraya aaminoo kaleeto wararkaasoo kale markaan u dirno way ka fiirsan jirtay markii aan barnaamijka ka baxnay nala tashan jirtay waxay dhihi jirtay war naftaada iyo warkan yaa muhiimsan xagee ka galnaa maxaan ka goynaa maxaan ku darnaa horta muhiimaddu waxay tahay qofka centerka fadhiya ee producerka ah ayaa la rabaa inuu wixii editor ku sameeyo oo uu ka fiirsado waxa meesha ka baxaya haddii aysan taasi dhicin oo adiguna tusaale ahaan dagaalaa dhacay meeshii aad joogtaa warkii aad diraysaa maba ogidba ma xabaddaa iska ilaalisaa ma feerkaa iska ilaalisaa ma candhuuftaa iska ilaalisaa ma qalinka kaa dhacaa soo qabsataa ma rikoorka lagaa jabiyaad soo qaadataa ma kaamirada lagaa dafay
adiga dhan ma joogtid marka waa in back upkaaga dadka ah ee idaacadda fadhiya ee stuudiyaha jooga waa inay waxa aad soo dirto ay markiiba kontroolaan oo ay ka fiirsadaan oo ay yidhaahdaan wariyaa naga maqan wariyaha naga maqan iyo warka yaa qaalisan marka waa wax ku xiran dhinacyo badan oo wax dhinacyo badan ku xiran markaas go'aan idaacadda ay ka gaarto war nadiif ah oo berrita aan wariyihii lagu qabsana la sii daayo waa muhiimadda koowaad muhiimadda labaad waxay tahay marka aad dhacdooyinkaas oo kale ka warramayso waxaan ka warramay qaraxii ugu horreeyey oo qof naftiisa halligaahi uu geysto annagoo baarlamaankii baydhabo joogna maalin subaxa ay tahay shaahu noo shuban yahay idaacadda BBC-da ay qorshaysay idaacaddaas labada duhurnimo inaan si live baydhabo uga soo daayo madaxweyne cabdullaahi yuusuf uu hadlayo ayaa qarax dhacay computerkii oromarig asagaa isdamiyey xataa anigu uma aana talin marka meel electronigi isdamiyey nafta bini aadamka waa fahmi kartaa waryihii kale ee la socday yuusuf xasan waa dhaawacmay asaga warkiisaba meeshii ugu dambeysay asagiya waxay ugu noqotay inaan raadso kadib warkii raadino maaragtay waa xasuustaa idaacadda markaas cabdinuur sheekh maxamed iyo yuusuf garaadaa la wareegay inta badanna marka wariyaha stuudiyuhu war kaluu haystaa warka adiga lagu diro maahane maxaa yeele stuudiyihii war ayaa laga sugayaa marka idaa waqaca maqan ma dhiman doonaa ma computerka laga dafi doonaa afri ku joogaa ma xaaladdu sidee noqon doontaa waxaasoo dhan soddonkaas daqiiqo adiga lagu diray aamina haddana loo sii diro sii diyaarisay marka waxay noqotay in la yidhaahdo idaa waqaca halkaanu joogaa asagiyaanba miir hayn war ma ka qaadanaa ma iska daynaa tiyaa waqti qaadatay kadibna in wariyaashii kaloo london joogay ay la wareegaan oo markaas telefoon warkii lagu raadiyo aniga la i waraysto package-keygii wixii aan diyaariyey laga tago interview la yeesho xaaladdii aan ka sheekeeyo marka waa waxaan dhihi karaa team worker ah oo team ku xiran oo idaacadda dhan inay ilaaliso sharafta iyo karaamada qofka wariyaha ah iyo idaacadda maaragtay wanaageeda iyo sharafteedaba waa wax loo baahan yahay dalad dhan wariyaasha ah inay wada ilaaliyaan way marka kolla waxaa wanaagsan in qofku wax walba waa inaad ka fakarto maaragtay midda kaleeto wariyaasheenu camera la wareegaynaa video aan la wareegaynaa maantoo dhan aan ordaynaa 30 second aa laga qaadanaya 30 second ama 20 second ama less than 1 minute ayaa laga qaadanaya warkii adigu aad u baabaaday u dhimatay hal masawiraa ku filan qaraxan waa dhacay halkaa masawir marka wariyihii aniga hadda waxaan dib u fiiriyaa kaamirooyinkaygii iyo wararka aan soo diri jiray markaan arko anigaaba nafta halig ahaaba wixii markaad soo dirtana 2,000 sawir markaad soo dirtana hal sawiraa laga yaabaa in idaacadda la geliyo ama waxaba laga yaabaa in Reuters iyo laga qaato maaragtay AP iyo laga qaato oo waa wax contract oo idaacadaha dhan ay wada leeyihiin oo wixii xataa aad u dhimatay aan meesha la keenin marka waa inaan ka fakarno nafteenna mustaqbalkeenna iyo wariyaasheenaba inaan ka fakarno way wariyuhuna waa inuu marka hore ilaaliyaa waa inuu marka hore ilaaliyo asaga ammaankiisa ayaa muhiim ah inuu ilaaliyo waad mahadsantahay aad ayaad u mahadsan tahay axmed ida waqaca waxaa inagu soo biiray wariye ka mid ah wariyaasha soomaaliyeed cabdisamed maxamuud ayaa nagu soo biiray oo aan filaya inuu dhowriga kasoo galay cabdisamed waan kugu soo dhaweynayaa walaal xaaladda aan maanta ka hadlayno waa wariyaasha iyo xilliga adag ay ku shaqeynayaan maxaad ku darsanaysaa maxaad wariyaasha talooyin siinaysaa ku shaqeynaya xaaladda adag ee dagaalada qoryaha aan sharciyeysnayn iyo wadankii aan ka nimid oo inaguba aan kasoo qaxnay weli duruufuhu ay ku hayaan meel laga aadayana aysan jirin oo dalkeeni ay tahay maxaad talooyin u haysaa wariyaasha waan salaamayaa waqaca madaxweyne aamin waan salaamayaa xasan waan salaamayaa canabadna waan ku salaamayaa sweden baan joogaa aniga cabdisamed baa la yidhaahdaa barnaamij waxtarka wariyaha la yidhaahdona muddo 7 sannadood ah waan daadihinayay oo aan wariyaasha ku wareysanayay wacyigelinta waana arrimahaana kaga hadlayay muddo fara badan ilaahay ajar iyo xasanaha ka siiye wariyaal badan ayaa igala qayb qaatay oo aaminaya ka mid ahaayeen xasan iyo marka ruuxaantii markaan su-aashaada u soo noqdo isbaritaankan iskin baray kadib waxaa jira ruuxaantii caqabado badan iyo duruufo badan oo haysta suxufiyiinta soomaaliyeed dan kasta ha ahaato duruufo adag bay ku shaqaynayaan caqabado badan baa la soo gudboonaanaya cadowyo fara badan bay leeyihiin oo dhinacyo badan ruuxaantii ka ataagaya ha ahaato dhinacii dowlad ka caburinaysa ha ahaato dhinac ay ka cararayaan shabaab iyo kooxaha nabadiidda
ha ahaato dhinaca kale oo qabiilooyin ay ruhantii ka cararayaan macnaha iyo weliba aqoon darro weyn oo baahsan oo haysata wariyaasha qaarkood oo ruhantii anigu oran karo badankoodu waa fiican yihiin laakiin waxaa jira wariyaal ruhantii u baahan ama loo baahan yahay goob warbaahineed oo lagu barto warbaahinta maxalliga ah oo ruhantii soo saarta gaar ahaan aad iyo aad waxaa loogu baahan yahay qaabka qoraalka iyo qaabka wartabinta waqtiyadan oo kale marka ay jiraan arrimaha siyaasadda qallafsan dadka iska soo horjeeda ama dowladda ahaato ama mucaarada ahaato ama cid kasta ahaato qaab ugu wanaagsan ee wariyuhuna ku badbaadi karo uuna noqon karo wariye hufan oo dhexdhexaadnimo mas-uuliyad waxyaabahaasoo dhan ay ruhantii ay tahay mid looga baahan yahay suxufiga marka ruhantii waxaa anugu ku dari lahaa waxaa wariyaashu ay u baahan yihiin dhinaca tababarada in laga caawiyo oo lagu daro qaabka qoraalka iyo qaabka badbaadada qofka oo adigiina isbadbaadiso naftaadii xabad baad la kulmaysaa mudaharaad baad la kulmaysaa dhibaatooyin fara badan baad la kulmaysaa macnaha wariyaasha ku sugan gaar ahaan magaalada muqdisho way ka khatar badan yihiin wariyaasha kale ee gobollada kale ku nool waayo ruhantii waxaa jira wariyaal fara badan oo ilaa waagii dowladdu dhacday jooga oo iminka ku sugan magaalada muqdisho waayo arag badan ah oo ruhantii marxalado badan la soo daalaadhacayay qaraxyo ka badbaaday dilal ka badbaaday duruufo nololeed oo dhaqaale ay haysato macnaha way u nugul yihiin wariyaasha ku sugan magaalada muqdisho marka la eego wariyaasha kale way u nugul yihiin dhibaatooyinka iyo xabadda iyo qaraxa iyo xidhitaanka iyo dilka iyo dhibaatada loo geysanayo marka waxa weeye iyadoo ay taasi haysato suxufiyiinta weliba aysanna helin hanti wax ku filan ama waxaa laga yaabaa in suxufigii maanta uu soo kallaho oo uu carruur leeyahay xaas leeyahay ilmo leeyahay waxaasoo dhan uu leeyahay oo ruhantii mushaharka yar ama inta yaru meesha ka qaato aysan ku fillayn oo aysan kafaynaynin wariyaha noloshiisii marka taas duruufaha dhaqaalehana qayb bay ka tahay qofka haysata marka caqabado fara badan baa wariyaasha isugu darsamaya laakiin anigu waxaan oran lahaa wariyaha oo la dhiso xagga aqoonta laga dhiso wax badan bay ka sahashaa inuu badqabkiisa ilaaliyo dhexdhexaad ka noqdo arrimaha soo gudbiya wararka dhacdooyinka xiisaha leh wararka markaa muhiimka ah wararka la doonayo in la soo gudbiyo bulshada oo ah kuwa xaqiiqa markaan leeyahay kuwa xaqiiqa aan ka hadlayo waxa weeye wariyaha waxaa looga baahan yahay in uu war kasta uu soo gudbinayo uusan ku degdegin oo hubsado xaqiiqooyinka dhabtaana ay tahay in wariyuhu uu hayo caddayn rasmi ah oo uu arrinta ku soo bandhigayo dhinacyo badanna uu ruhantii daldaloolo fara badanna uu raadiyo marka ruhantii waxaan oran lahaa wariyaasha soomaaliyeed in aqoonta ay korsaanay haddeer muddo dhowr iyo 20 sano ayay saxaafadda ku jiray weli wax baan bartaa weli waxaan jecelahay inaan sii barto waxyaaba saxaafadda arrimaha saxaafadda weli qalinkii waan haystaa weli dadka iga cilmiga badan iga aqoonta badan waxaan jecelahay inaan wax weydiiyo inaan ka faa'iidaysto inaan la tashado macnaha aqoontii waad u baahan tahay mar ka dambeeya waa inaad aqoontaada iyo kobacaaga maskaxdaada iyo waayo aragnimadaada aad sii korisaa maaha keliya inaad 20 sano ama 30 sano ku jirtay saxaafadda maaha laakiin waa inaad aqoonteeda leedahay aad wax ku maarayn kartaa waxna ku hagaajin kartaa dadkana aad wax ugu sheegi kartaa marka ruhantii waxay u baahannahay goob warbaahina ama goob machada oo ballaaran oo laga hirgeliyo tababaro lagu qabto wariyaashii lagu soo dhiso qaabka war akhrinta qoraalka oo kale haddeer marka wariyuhu arka wax soo qorayo oo kale ama qoraal soo qorayo oo kale ruhantii qoraalka wuxuu sida ay tahay ama sida rasmiga u soo qori maayo wuu isku dhex dardarayaa wuxuu doono soo qoraya ama qoraalka laga dhiso qaabka wartabinta laga dhiso goobaha dagaaladu ka socdaan ama colaaduhu ka socdaan ama dhibaatooyinku ay ka dhacaan qaab nooca qaabad baa jiro looga warramo oo barasho u baahan in wariyuhu macnaha uu barto qaabka uga soo warramaysid marka waxyaabahaasoo dhan waxa weeye waxyaaba aynu u baahannahay in laga dhiso suxufiyiinta iyo wariyaasha gaar ahaan ururada warbaahinta oo ay shaqadooda tahay oo tababaro siiya oo barnaamijyo noocaasa soo qaata oo ku sugan gudaha dalkii inay ay xoogga saaraan mar walba waxaan aragnaa in laga hadlo anshaxa saxaafadda waxaad arkaysaa anigu barnaamijyada aan qabto waxtarka wariyaha aqoon iyo waayo aragnimo ayaan lafteedu ka sii helay dheeraada taasoo ah wariyaasha ama qaarkood ama dadkii aan waraysanayay
badankoodu ay ruuxaantan khibrad iyo aqoon ka helay xitaa waxaa jira marka tababar la aadayo oo tababar loo diro suxufiga in suxufigaasi keliya uu ku xisaabtamo dakhliga yar ama $100 ama $50 ee meesha ka soo qaadanayo hay'adaasi bixinayso keliya uu ka fekero laakiin uu ka fekerin maxaad kala timi meesha aqoontii aad kala timi maxay tahay wuu iska fadhiisanayaa maantoo lacagtaa yar buu qaadanayaa wuu iska tegayaa laakiin aqoonta markii adigu aad qaadatid waad ku dhaqmaysaa dhibaataduna waxa weeye qofkii lacag buu raadinaya dakhli buu raadinaya laakiin raadin maayo aqoontii marka waxaanu oran karnaa in waxaanu u baahannahay hadalka sii badine in la sameeyo xarun tababara oo dadka lagu tababaro qaabka qoraalka laga dhiso ururadu ku soo daraan wariyaha badqabkiisa runtana loo sheego wariyaasha tababarada ka qayb qaadan oo la yiraahdo inta aan lacag loo sheegin la yiraahdo tababarkaasaa lagu siinayaa waa inaad ku camal fashaa oo aad sii gaarsiisaa oo aad aqoontaati ku siisa waxaad arkaysaa wariyaal fara badan oo 40 sano ama 15 sano ama 12 sano ku jiray saxaafad oo ruuxaantii shuruucdii iyo anshixii saxaafadda iyo qaabkii saxaafadda meel kaga dhacaya marka ruuxaantii waxyaabahaasoo dhan waa caqabado jira dhinaca dhaqaaluhuna aad buu u yaryahay oo suxufiyiinta isma kafayn karaan waxaa jira barnaamijyo cusub oo la soo saari karo wariyaasha laga dhaadhicin karo ama goobaha warbaahinta sidee dhaqaale lagu heli karaa ama goobta warbaahintu ama goobta idaacad ama TV ahaato dhaqaale sidee u soo saari kartaa wayna saalan tahay marka fikradaha iyo aqoonta ku daran ma san tahay Cabdisamed walaalo aniga waa jecel inaan hadalka sii wado oo wax badan laga faa'iideeyo waan kugu soo noqonayaa maraba inaan hal markaa wada dhameysto oo kugu soo laabanayaa markale si aad noola hadasho maxamed shiine ayaa inagu soo biiray oo ka mid ah farsamayaqaanada kaamiramanada maadaama inteenan aan nahay dadkii hadlayay oo wariyaasha qatarta ugu badan waxaa la kulma kaamiramanada oo iyo weliba camera ladieska oo iyagu ah dadka ugu horeeya oo goobaha dagaalka istaago oo dhibaatadaas wajaha shiine anoo kusoo laabanaya waxaan siinayaa xasan muuse sabriye oo xoogaa isugaya xasan waxaa jirta wariyaasha laftirkooda inay caqabada ku dhacaysa ama dhibaatooyinka wajahaya ay qayb ka yihiin marka xaaladi ay jirto ama dagaal meel uu ka dhaco ama mudaharaad meel uu ka dhaco ama isqabsi wax un dhibaato naftiisa u keeni kara wariyaha ay meel ka dhacaan in wariyaashu ay isla markiiba emotional noqdaan oo ay iyagoon wax kale ka fakirin oo naftooda ka fakirin ay hore u dhaqaaqaan oo shaqadoodii ay muhiimadda siiyaan naftooda intay joogaan sidii aan kusoo shaqaynaba qaabka noocaas oo kale ah anoo og oo uga xasan oo inaad noocaas kusoo shaqaysay oo wariyaashii furunta aad ka mid ahayd maadaama aad waaye aragtay weynaatay xilli badan ay kasoo wareegtay wariyaasha xilligan xaaladaas ku shaqaynaya oo furunta istaagaya oo subaxii markay soo kacaan halkee hadal micno sameynaya uu ka jiraa leh oo kamirada iyo mikrofoonka hore u qaadanaya maxaad u sheegaysaa naftooda iyo warka midkay doorbidayaan aad baa mahadsan tahay sida aad sheegtay xilli adag ayaan kasoo shaqaynay magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka soomaaliya inagoo nafteena khatar gelin jirnay sida aan wararka ugu soo gudbin lahayn bulshada soomaaliyeed wariyaasha haatan ku sugan gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho oo xilli doorashooyin iyo rabshado iyo mudaharaadyo ay ka jiraan waxaan kula talin lahaa in marka hore ay aad u taxadiraan sida aan la soconnana wariyaasha soomaaliyeed ee haatan ku sugan gudaha soomaaliya ma helin tababaro ku filan oo ay naftooda ku badbaadin karaan ama ay si warka ugu soo gudbiyaan bulshada dhanka kale warbaahinada milkiilayaasha iskale inta badan suxufiyiinta markii aan tababaro ku filan oo markaasi ku saabsan ama qaabka naftooda ay ku badbaadin karaan ama qaabka warka oo qiimo leh ay bulshada u gudbin karaan sidoo kale ma jiraan hay-ado badan oo ururada saxaafadda ah oo tababaro siiyo suxufiyiinta soomaaliyeed taasi waxa ay keenaysaa khatar fara badan ee suxufiyiinta ku galaan siday warku heli lahaayeen xilligii hore markaan dib ugu laabto waxaan xasuustaa in magaalada muqdisho hogaamiye kooxeedyo ka talinayaan maxaakiimtii ay joogto halis fara badan ay jirto inaan wararka u geli jirna halistaasi oo aan dhibaatooyin fara badan ay naga soo gaartay oo aad adigaba og tahay in suxufiyiin fara badan ay nooga dhinteen ayaga oo war inay bulshada usoo gudbiyaan ay rabaan marka waxaa aad u yar tababarada la siiyo suxufiyiinta iyo sidoo kale xaaladda ay ku shaqaynayaan oo ah xaalad aad u halis badan canabka laftigaaga haddaan ku weydiiyo waxaa ka mid ahayd wartaradii aan kala shaqayn jirnay magaalada muqdisho gaar ahaan idaacaddii hon afay waxaan xasuustaa in khataro fara badan naftaada ay gashay oo ay ka mid ahayd
qatartii ay ku dhimatay allah u naxariistay walaasheen biniin masjid nuur oo xilliga xabadda ay ku dhacaysay adiga aad la socotay waxaa jiray qataro kale oo fara badan xilligii dowladdii cabdullaahi yuusuf ay imaanaysay garoonka stadium muqdisho ee magaalada muqdisho qaraxii ka dhacayna goobjoog ahayd qataro fara badan bal ka waran waqtigaaga xaaladahaas aad kusoo shaqaysay iyo haatan marka adigoo joogsan nabada oo ah dalalka yurub ka mid ah sidee baad u arkaa qatartaas kaa soo martay maxaad kulan talin lahayd wariyaasha soomaaliyeed ee hadda kusoo gudaha muqdisho xasan musabriye waa mahadsantahay anaa barnaamijka waday laakiin su-aal ayaa laga weydiiyey horta xaalado kala duwan ayaan kusoo shaqaynay oo qiiradeeda iyo dhibaatadeeda leh markaan arko xaalad inay wadankii ka dhacday ama wariyaashoo qatar soo tabinayo wallahi way dhaawacdaa waxaan xasuustaa xilligii aan soo maray shaloo ugu dambeysay barnaamijkan hadda anaa idinku dhaliyay inaan qabano waxyaabaha igu dhaliyana waxaa kow ka ah dareen qalbigayga ku jiro oo aan wariyaasha u qabo xaalad aan soo maray oo damaqda mar walba aniga anoo aad u da-yar ayaan hoon afrika shaqo bilaabay markiiba waxaa la ii qaatay inaan reporter noqdo adiga xasan nadadaa ka mid tahay ayaan isla soo shaqaynay xaalado kala duwan ayaa la soo maray qataro kala duwan waxaan ku xasuustaa xilliyadii adkaa oo aan soo marnay marka wax dhacaan mar walba xabadaa dhici jiray dagaalku wuu iska jiri jiray oo mar walba wuu taagnaa markay xaaladi dhacdo amaba xabado meel ay ka dhacaan ama si ay noqdaan weligay kama fekerin xabadda ama ay kugu dhacdaa qofka ugu horeeyo oo boorsadiisa raadsado oo jecel meesha inuu kasoo warramo ayaan ahaa jiray waxaana ii geynaya aqoon darro markaas jirta inkastoo hoon afrika aad ay wariyaasha u tababari jireen oo looga digi jiray naftooda inaysan khatar gelin oo tababaro badan la siin jiray sidaasay tahay haddana ma aqaan wixii qaldanaa xabadda kamaana baqi jirin dhibaatada kamaana baqi jirin wararka aan soo gudbinayno kama baqi jirin saameynta ay aniga igu yeela doonaan waxaan ka fakeri jiray micnaha warkayga uu samayn doono iyo feedback kasoo laabanayo iyo in warkayga la wadwado oo maanta war xiise leh aan soo tabiyo intaasoo qofaa dhimatay intaasaa dhaawacantay xaggaa qaraxday xaggaa wax ka dhaceen mar walba waxaan ka fakeri jirnay saameynta mar walba ay leedahay waa run xasan xiliyo badan oo kala duwan ayaan soo marnay xusuuso badan iyo waqtiyo kala duwan haddaa ilaa caawa waa ka sheekeynaya aan barnaamijkooda anaa qaadanaya marka waxyaabaha dhalinaayo inaan arrimahan mar walba suxufiyiinta aan aad ugu dhex jiro waxay tahay xiliyo badan oo adag ayaan suxufiyiinta kusoo dhex qaatay sida xasan uu sheegay dad badan oo aan jecelnahay oo saaxiibadeena ayaan ku weynay xiliyada ugu khatarta badnaa oo aan soo maray way kala duwanaayeen mid ka mid haddaan ka taabto waxaa jirtay xilligii way sii kala daran yihiin laakiin hal ayaan kasoo qaadanayaa geridii duniya ayaa jirtay oo midda igu naxdinta badan ay ahayd laakiin waxaan kasoo qaadanayaa anoo dib uga sheekay doona taasna maalintii ra-iisul wasaare geedi oo muqdisho yimid uu ka qudbeeyey isbartiibada oo qaraxu uu ka dhacay maalintaas waxay ahayd maalin aad u dhib badan oo waqtiga aad uu noogu kululaa oo wariyaashii hoon afriga oo dhan intooda badan ayagoo waxba ka harin aan meeshaas tagnay qaraxii markuu dhacay waxyaabaha qalbigeyga ka go-in waxaa kamid ahaa maxamed maxamuud xalane oo laga yaaba inuu barnaamijkan fiirsanayo oon isku meel taagnayn dadna hoosay u carareen dadna gadaalay u carareen isbartiibada stadium muqdisho qofkii yaqaano waa derbi su wareegsan oo dheer maybe 3 dabaq ama 2 dabaq camal dhirirkiisa uu yahay intuu meesha ugu koreyso fuulo iska tuura markuu qaraxii dhacay wariyaal badanaa ku dhaawacmay annaga dhan waa ku shoognay waa lagu kala cararay xaalad adag ayay ahayd waxaa la awooday in 2 wariye loo diro laakiin waxaan ku joognay 10 wariye ka badan oo hal station ka imaaday marka hadda aan ka fakaro aad ayay ii walwalgelisaa because xaalad adag ayay ahayd oo maanta aan halkaan hadal ku sheegi karin aana sawiri karin oo khatar adag ay ka dhacda halkaas dad badan ay naftooda ku waayeen marka xaaladaha way kala duwan yihiin walaalaha kale ayaan siinayaa shiina ayaa nagu soo biiray oo weli aan hadlin khadiijo qalanjo waan salaameynaa oo ka mid ah wariyaasha soomaaliyeed oo xilliga adag kusoo shaqeeyay oo iyaduna halkaan commentiga nagala qayb qaadanayso maxamed shiina maadaama adigu aad tahay qaybta farsamada ama aad tahay cameraman xilligii ugu adkaa oo 9-meeyadii aad waddan kasoo shaqeysay adoo soo koobaya oo barnaamijkana uu soo sii dheereen oo mar dhow aan ka bixi doono maxaa ka mid ahaa waxyaabihii khatariya aan la soo kulantay
canab abaayada u mahadsan tahay waxaan sidoo kale salaamayaa walaashii aamino walaashii khadiijo qalanjo axmed idaawaqaca xasan muuse sabriise matalis iyo cabdisalaam waan salaamaya kulligiin salaamullahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu meel kastoo joogtaan anigoo yaran aan ku biiray saxaafadda 1986 anigoo gurmadka difaaca qaranka ka baxay noloshana waxay leedahay mar kasta khatar ay leedahay haddaan maalmaha qaarkood idinka sheekeeyo ma ka hadlaayo soomaaliya dhan oo duntay ama raadiyo muqdisho adigoo ku dhex jira lagugu dunshay waa wax kale waaye oo weliba ay soomaali kugu duminayn ay ajnabi kugu duminayaan aniga waxaan marti u ahaa oo aan la joogay inuu maalintii siyaad barre baxayay waa joogay maalintii siyaad barre lagu dhagax tuuraya hargeysana waa joogay oo baabuurka gaashaabanaan ku jiray oo shaqadeeda maadaama farsamayaqaanadu iska howla badan yihiin gawaarida gaashaabanaan ku qoraay waxaa marka jiranayo khatara waxaa jira aan dadka la qabno marka hal wariye dhinto waxaa la dhintay intaasoo kunoo qof oo soomaaliya kala dhintay waxaan ka nahay boqolkiiba wax yar oo misqaala dartiaan ka nahay marka waxaan nalaga rabaa dadaal ka duwan dadaalka haddaan qabno kasoo qaado kale annaga waxaan leenahay ururo dadku ururo ma leh weligin ma maqashan ururka dadka aan hubaysnayn u dooda oo soomaaliya weligin ma maqashan ururka u dooda dumarka keligiis ururka u dooda dadka xabaddu aysan karin oo birmigeeda ma jirto marka haddaan tayada marka aqoonta idinka sheego aniga waxaan kusoo koray waddan dowlad leh waxaan kusoo koray oo kasoo shaqeeyay waddan dowlad leh waxaan ku qaangaaray waddan dowlad leh markii dowladdii burburtana waxaan noqdaba dadka oo dadkii la mahdiyey oo inay dalka wax ka qabtaan ay noqotay muddo badan marka raadi muqdishoan kusoo qaatay waxyaabaha marka aan iska ilaali jirno waxaa naga mid allah u naxariistay haddeer axmed cabdinuur oo kale iyo weji oo kale hadda ka nool allah caafiyo hadda weji walow soo caafimaaday iyo cabdiraxmaan dhagax iyo qoryoole iyo raggii teera iyo henry iyo waxay ka sheekayn jireen iyo wax hadda aan aragnaa waa wax iskeenay waa tusaalahaan waxaa waaye khatarta saxaafadda ku jirto waa khatar oo dalka dhan ku jiro waa khatarta ay saxaafiyiinta ku jiraan iyo waxa dhibkay keeni karaan waa dhib dadka dhan ay keeni karaan dhibka marka dhib si guud noo haysta waaye saxaafadda wax u gaara iyo hoy gaaro iyo dhib gaara ma haysta laakiin waxaan laga rabaa annaga inaan nahay dad dhiiran oo bulshada matali kara difaaci kara ilaalini kara kasoo qaad waxaan laga rabaa dhaqan xumada inaan ka hortagno inaan burcadnimada ka hortagno inaan ka hortagno waxyaabaha oo saxaafadda soo dhex galay waxaa soo galay dad cadayaanka baraha bulshada waxaa soo dhex galay dad burcad ah waxaa soo galay dad hakarisa oo dadka magaciisa iyo sharafkiisa inay dilaan rabaan marka in annaga aan isdifaacnaa waxayba ka daran tahay inaan dad difaacno inta ay saxaafaddu isdifaacayso oo dadka saxafiyiinta ay gaarayaan dad professionalista oo fahmi kara warka loo sheegay iyo sawirka loo soo diray inuu yahay sawir liddi ku ah qof kale ama dad kale ama qabiil kale ama bulsho kale kasoo qaado kale shalay iyo maanta markaan kasoo qaadano wixii dhacaya waa arkaynay inteenaan saxafiyiinana waa loo soconnaa annaga marka badbaadadeenna waxay ku jirtaa inaan dadka badbaadino qof kastoo saxaafi waxaa laga rabaa inuu dadka badbaadiyo oo si macnawiya iyo si ficliyana u badbaadiyo kasoo qaado kale wararka la qoraayo qaaraa waxay keeni karaan halaag lagu halaagsamo waxay keeni karaan isku dir waxay keeni karaan baaba kasoo qaado ani farsamayaqaanan ah weriyaasha waxaan weliga dhihi jiray isku day inaad adiga caadi iska dhigto mana waxaan gadaynaa maqaayadda aan gadayno xataa kabalyeeri maadaama kabalyeeri aad tahay adeeg fiican bixi weriyaasha inay adeeg fiican bixiyaan adeegga markaad bixinaysidna waxaa dadka ku jira kastamar xun oo ku caayaya oo sharaftaada iyo shaqadaada caayaya waana la caayaya waana adkaysanaa waana la bahdilaya waana adkaysanaa waana xataa mararka qaarkood been sheega weriyaasha qaarkood dadka waxaa loo isticmaalaa baawar waa la abuusaa waa la dhibaateeyaa waa la handadaa waa la xiraa marka si wixii looga badbaado hal mid aan isla qaadan haddaan weriyaasha nahay dhibaatada guud ee dalkeenna haysataa annagana qaybteenna naga haysata warka yara ku dheeraan dhibaatadaas si looga baxana waxaa loo baahan yahay in la helo xirfadlayaal saxaafiyiin ah fanaaniin ah jilayaal ah farsamo yaqaano ah oo waxaas si sahlan dadka uga badbaadiya kasoo qaado kale marka dhibdhaco kale haddii dhib lagu daro oo dhibkii laga dhigo dhib weyn iyo haddii dhibkii qofkii galal la sheego kasoo qaado kale ilaa hadda annaga waxaa dalkeena laga leeyahay dambiilaha in la sheego lagama hayo hebelaa dambi galay dalkeena annaga waa ku yaryahay saxaafaddana waxa waaye khatartay ku jirto 3 meelood oo 4 meelood waxay ka badiyda qofka caadiga kasoo qaad wiilka kaamirada wataa waa ka dhib badan yahay meeshii xabaddu ka dhacaysa uu joogaa isaga hadduu dhinto hataa lama sheego farsamayaqaanka lama sheego wariyahana lama sheego marka waxa waaye ninka wuxuu ka soo horjeed wuxuu sheegayaa
waxay liddi ku yihiin qolyo kale liddi ku yihiin shaqadaan haynaa waxay liddi ku tahay dad kale shine barnaamijka oo daqiiqado kooban awgiis ah oo kugu soo laabanayaa waxaan siinayaa aamine muuse wehliye anigoo jecel in barnaamijka aan qaybiyo iga raalli aho walaal aamine muuse wehliye waddanka waxaanu ka hadlaynay xaaladan xilliga lagu jiro iyo badqabka wariyayaasha waxaa tahay hooyadii saxaafadda ayaan anugu kuugu wici karaa waxaa tahay qof aan u qirsanahay inay nooga aqoon badan tahay saxaafadda waxaan kuu qirsanahay inaad muddo badan soo shaqaysay qiimo ayaan kuu haynaa haddaan nahay saxafiyiinta kaa dambaysay aamino saxafiyiinta gudaha ku jira ma la dhihi karaa in dhibaata ay ku dhacdo oo iyaga la dilo oo la bartilmaamsado amase in iyagii ay wax walba riski kastoo dhacaya qarax ha noqoto ama xabado lasoo furo ha noqoto amaba masiibooyinka dabiiciga ha noqoto in wariyaasha ay ka noqdaan number one ma la dhihi karaa iyaguna qayb ayay ka yihiin oo naftooda wariyaashu kama fakeraan waxay muhiimadda siiyaan wararka ay soo helayaan sidii haddaba aan ka sheekeeyo anigu baan kusoo shaqeey waxaan filayaa aamina inaysan imaqlin internetka ayaa ka gogo'aya idaa waqacadu may maqashaa masoo aniga xaggeyga anigu si fiican kuu maqlaa anna si fiican kuu maqlaa aamina aan ka warsugno waa ku maqlaa anaa si fiican baa ku maqlaa haye aamino internetka ma ka hadlaysan okay su-aashaada aan ixtiraamin waxyaabo su-aal ka yara duwan oo rabay ka hadlo horta run kuu sheego iska hadlo qadka hagaaji aamin qadka iska hagaaja baay si fiican laguma maqla aamin wata marka hadalka bas alright horta soo aamino waxba kama maqalno haddii aadna maqlayso abaayo aamina ka bax aamina intaa ka baxdid kusoo laabo aamina intaa ka baxdid kusoo laabo bal na dhagaysa aamina qadkaa kaa hadlaysana baayo waa kugu soo laabanaynaa idaa waqaca adiga ayaan ku siinayaa xusuustaada markay gadaal aad u celiso anoo rabo xusuustiina waxaan gadaal ugu celinayo in wariyaashani ay ka faa'iidaystaan xilliyadii aad reporterka ahayd waxaad gudaha soomaaliyana inaad reporter kusoo ahayd oo aad ka shaqaynaysay khatartii kuugu adkeed maxaad ka xusuusan kartaa oo naftaadaa istiri alla lehe maanta waa dhimata axmedow waa su-aal adag lama soo koobi karo waxa weeye intaan khatar galay caadada xisaab ma lahan laakiin waxaan ku shukrinayaa allaha awoodda sare leh ee awoodda badan leh ee iga badbaadiyey waxyaabihii iigu khatarta badnaa waxaa ka mid ahaa idaale dagaalka idaale markii aan tagnay oo anigoo habeen magaalada muqdisho jooga koox maxkamadihii shareecada islaamka ka mid igu yidhaahdeen ciidan etoobiyaan ah waxaa lagu hayaa isbitaal digfer marka iskama bixi kartid b b c da wixii aad rabta ma samayn kartid waa inaad meesha aadayso meeshaad u socoto waxaad samaynayso waa in la ogyahay marka markiiba b b c dan waxaan u sheegay inay jiraan ciidamo etoobiyaan oo nolol lagu hayo oo aan raba inaan soo arko waxaa la yidhi iska daa waxaan yidhi maya inaan soo arkaan rabaa aduu dood badan kadib waxaa la yidhi iska bax isbitaal digfer anigu waxaan joogaa markaas waxaan deganahay hotel saxafi iyo digfer intay isku jiraanna waa taqaanaa saacado markaan soconnay oo aan idhi warsaawo ku jiraan waa kuwaana aamina soo laabatay aamina siinayna hadalka sug dhamayso axmed muuse adiga aamina gadaal laga siinaa intay ka imaanaysa sii wataa way khadka inuu ka halaaban ka baqayaa aamina mana maqashaa aamina ama baxay oo soo noqday marka haddaad daa i maqashaan waa soconaa
hayo ku soco socda haddaada maqlin idinkaa wadanaya hadalkiin soco hadda si fiican because dadkoo dhan waxa aniga ma jirto waa ma you are engineer I'm not engineer so marka waxaan qadka qaba kara malaha okay soconaya mas-uula dadka dadweyne qof ama idaacad ka soo muuqda ama tv ka soo muuqda reporter waa qofka warka soo dira aniga reporter ahayn laakiin riskiga iyo waxyaabaha ku riska ayaa ogahay riskiga ama dhibaato soo yaasha microfonka alla ka dhacayska badanaa qaarkood dhibaatada wax wacan stationka fadhiya oo producers amaba editorska ah ama adakayga hore tv waxa iyo Somaliland yaa wariyayaasha ka joogay buuho oo iyaduna dispute area ayaa waxay soo waxaan ka xumahay aamino inaan si wanaagsan oo warkarka ku iga hor saddex kamida ah ka soo jeedo aamino aad ayaan u jeclaa lahayn sheekadaas inaan maqalno sheeko xiisa badan laakiin wax aan kaa maqalno ma leh hal mar kale go ee soo laabo si aan codkaaga u maqalno aad ayaan u xiiseynaynaa sheekadaas iyo sheekooyin kaleba inaan kaa maqalno idaa waqaca barti nooga sii wad intaasoo qafar oo kala duwan ayaad gashay ha marka idaale markaan saacada markaan soconnay biyo ma leh oo cunno ma leh oo waxaan wataa kaamero iyo qalin wax kale ma wato oo go' ma wato oo busto ma wato oo barkin ma wato gaariyaan hore ka saarana war ma laabanaa maya oo kuwaana haddii xataa lagu dejiyo meele aada ma taqaanid haddii xataa lagu yidhaha iska deg oo laabo oo meesha ka timid ku laabo meela u socoto ma taqaanid meela ka timid ma taqaanid waxay nagu qaadatay telefoonada waad ogeydeen Soomaaliya wuu iska go'ayaa networkba ma lahan BBC iga samartay qaraabadeedii iga samartay ninkii war waxa u dambeysay asagoo digfeerar u socdaa dhulka dhan yaa xagee aad idaalaan u soconaa idaala loo qaaday waa abtuub camal waaye wixii hadda aamin ay sheegaysay marka waxaa ku khasban tahay dadka kuwata inaad la saaxiibto oo tiraahdo war had maxaa xala maxaan samaynaa adigaa lagaa shakinaa telefoon waxaan wataa satellite ma shidi kartid asagaaba dembi ahba toraya wataa waxaan wataa setphonekii dhammaay oo BBC-da oo stuudiyaha BBC-du meel kasta oo aad joogto 2 tilaabo oo free ah u baahan tahay keliya meesha aad joogtad idaacadda kasoo dayn kartaa inaad 2 tilaabo keliya aad oo xor ah aa hesho wareer aniga nimankii qoortaan isla galnay hal maraan shidaa markaas aniga BBC London la iga xukumaayo ma maalin u tahay ma habeen u tahay ninkii ku xukumay ma hurdaa ma soo jeedaa email male warqada qorto ma lahan marka waxay noqotay in aniga go'aan qaato go'aankaasoo ah inaan hawshaan ama ku dhinto ama ku noolaado warka aan soo tabiyo baxo maaragtay wixii uu ilaahay ka dhigo inaan socodkayga iska wato nimankii haddii la babaaro war wax la cuno ma lahayaa timir iyo biyaa laga helay timirtii iyo biyaan macinsanay annagoo baaba'nay oo naftu naga baxday meeshana waxaa war laga helaa keliya abtigay Salaad Cali Jeelle oo dowladda Soomaaliya ka tirsan oo markaas wasiir ku xigeen ah oo aan asagu wuxuu rabana sheega asaga keliya ah garab aaminaa nagu soo noqotay hay aamin hadda suu ku yahay way fiican tahay آمنة
هلو السلام عليكم ما داعي مقليسين سفيان waxaan ka soo galay mobilkaygaan ka soo galay ama internet ka dhaama hadda noo bilow intuu dhaamo hadda noo wad sheekadeen sidii hore wadama kana ugu jirtay ee bar kastaba hadduu sidii hore dhaamo halkaygaan dhammaysanaa maadaama qadkayga xun yahay aniga ku soco okay wariyaasha qaar waxaa dhibaato ku ah wariyaasha kale ama producerska soo saarayaasha xarunta jooga waxa aniga experience-gayga idinla wadaagaya tvda Soomaalida kamid ah anoo ka shaqeynaya ayaa waxaa dagaal ka dhex dhacay Somaliland iyo SSC markii dagaalka ka dhex dhacay wariyayaashii jooga laascaanood qayb kamid ah iyo buuhoodle wararka ay soo diraan wariyayaasha ka soo jeeda Somaliland ma soo deyn jirin waxaa dhacday marka anigoo hadda xumaanba ka wadinba oo aniga kulligoodba waa ii wada siman yihiin laakiin dhibaatada dhacday aan rabaa inaan idin sheego oo reality-ga ah oo u soo joogay waxaa dhacday wariyihii warka lama sii daynaayo wariyihii warka loo soo diraa lama sii daynaayo maanta oo dhan wariyayaasha buuhood la jooga waxay taagan yihiin telefoonka waxay leeyihiin warka iyaga maxaa loo sii dayn waayey farsamayaqaankii ayaa telefoonka ku soo dhacaa because farsamayaqaanada 24 saac ay joogaan ee telefishinka farsamayaqaankii wuxuu dhahaa aaminaa dhexdhexaad ahoo ayadaa mugay timaado warkiina sii dayaysa ilaahay baa iiga sarreeya maalin oo warka leeyahay markaan tagaa waxaa u tagayaa 12 war oo buuhood leeso iyo ka timid laascaanood oo aan la sii daynin oo maxaa loo sii dayn because wariyaha oo wariyaasha saddexda wariyo iga horeeya oo ku noqonayo warka oo 6 maalmood oo kaleeto maxay to maalinba 2 jeer akhrinaya ilaa aniga la banaankeeda ka imaanaya oo la gudaheeda degan ayaan warkii akhrinaynin because qadiyadooda daraada oo diidaya markii dambe waxa dhacday wariye ka tirsan wariyayaashii oo Somaliland joogo in la dilo because warkii hadawna sii day daba dhilifaata halay adigan أحمد إذا وقع مرقاتي وكيها طار هذول ما أنت جوج وأي مرقات فري لها لما ورياش BBC صام رحتها شو هذا أحمد أو عرب كله فطي إنك ستون كوات كانت أنا كبروديوسر أنا هافدي يا حرونته وريها مركا وركا صادرة إديتوريال ميتين اللي جلا دك كفاية هذا قبل كعبة يا جوان كجارة وريه وركي ساتيل رب الله بدري ما يبا لو بدري ما يبا إذا عدا أما مركو 5 minutes صادرة 1 minute أما 2 minutes إذا عدا الله قدره وريه الريسكي وكجرا وحنا ريسك جليس إذا عدا وشقيناي ووح ريالتي أو نعواي هذا إلهي اللي قبقاي أو أنا وريال أن رنتو إسكو شيغين تن أتببرد أن كور وريك سنة يا تببريا أنا علي يا أنا عشان يا تببريا ورياش وعاد تببركو ده اللي قربا إذا عدها أي كشقيناي يعني وحبه هذا الكل دوقين تكليته إذا عدها أي كشقيان ورياش وإني لقلان كونتراكت وريه ورلبا باون هداد كشقيان أما $2 وإني كونتراكت سمول برنتين يكون قرنتها واحد كونتراكت قاسنا أين العكلي يكون قرنين لما صحفيين حتى كوا يورب جوجو مينيمم ويج وحلي راي كشقيان صحفي واحد برتي قطرعة محيطة برنامج كيسو كالا أرقية أتميها مينيمم ويج وقادنا waxa qofka cleanerka waxa uu ku shaqeeyo oo qoraya xaaqid hadana xaq lama socdo hadoo jirada xaq lama socdo inta soo socdo hadoo tarin dardar xaq lama socdo idinku ku Soomaaliya jooga ka hadlaystaane kala dhan jooga baan xaq lahayn okay marka waxa la rabaa idaacadaha basiska ay u shaqeynayaan wariyayaasha waa inay xil iska saaraan shaqaalahooda waa inayna lacag ay damsiyan kariyaan ka fikirin waa inayna u arag idaacadahooda iyo telefishinadooda maqaayad yareysaan buusan lagu iibiyo iyo kafe inaanay u arag waaye waa inay xaqa shaqaalaha ilaaliyaan wariyayaashu waa inay samaystaan ururo shaqaalo oo xuquuqdooda ilaaliya waa inay samaystaan ururo caawiya ayaga waa inay samaystaan qareeno hadhow difaaca haddii xaqooda lagu tunto wariyaha haddii la dilo Soomaalida loo baryaa wariye hebel la dilo ilmihiisa iskool rabe ilmihiisa iid la'aan lacag ha loo keeno qalad waa idaacadi ay kumaan kun soo galeys oo u shaqeynaa waa qalad
haddii laakiin qofka uu xaq leeyahay oo uu pension system leeyahay oo berrita hadday wax gaaraan oo dhib gaaraan soo shaqada u socda ama ku dhex jiro ama ku dhinto ama lagu dhaawaco waa inuu xaqiisa meel saaran yahay waa inuu contract jiraa waa inaan wariyaha lagu baacbaacsan caanankaa dhigaa no adaa caan already maalinka ugu horeyso ood soo hadashaba 10 qof hore ku fiirsatad caan u tahay maalinka labaad 200 oo ku fiirsatad caan u tahay cid caankaa dhigi karta male adiga dadaalkaaga caan ku noqonay ya ma aha in wariyaasha lagu muqoonay ani sayla tahawaa tii aad su'aasha ay weydiiso haddaan u noqdo inkastoo laga yaabo inaan ilaawo walaashay riskiga haa qaybay ku leeyihiin because aniga markaa TV u shaqaynayo oo waxaan ku shaqaynayaa aanan ogeyn oo berri haddaa cambuulo gubata noqdo meeshaas madfac igula dhaco waxa aniga aan mudanahay aanan ogeyn yes riskiga anaa isku keena waay macnaheeda qaybaan ka ahay waa ka baxa baa macaan waa mahadsantahay haye idaa waqaco sheeko culus ayaad noo waday aamin markuu ka go'ay nala sii joog aamina naga tagi aamin nala joog intiba qadku intuu saamaxay baa jooga aniga mobilka uga jir hadda meel fiican saar adigoo qadkii kaa go'ay oo BBC ku waayeen oo ehelkaagii ku waayeen oo iidaa leh ku dhaqaaqaya sheekadii noo maraysa Axmed iidaadan tagnay diinsoor magaalada la yiraahdo tagnay meesha diinsoor la yiraahdo ayaan warbixintii ugu horreysay ka diray anigu ma ogi dhinac ayaa waxaa Salaal Cali Dalla wuxuu sheeganayaa abtigay inuu dhinac ka joogo diinsoor la isma arki karo inuu joogo inuu maqan yahay Allahu aclam laakiin telefoona lagu raadinayaa asaga isha kaliya oo warka laga qaatahayna waa asaga ishii labaad anigee noqotay waxaan sii soconno waxaan tagnay adigu iidaalaan tagnay oo ahayd meesha ugu badneed oo dad Soomaaliyeed ku dhinto ama ciidan Ethiopiyaani uu ku baabo oo lagu dilo ummad badan oo Soomaaliyeed ku dhimatay tiro badan oo ciidamada Ethiopiyaanka ahna way ku dhinteen waa markii ugu horreysay noloshayda oo aan arko mayd sida raashinka la isku riseeyay isu dul saaran oo dilaacay oo dhacaan ka socdo oo shalay iyo daraad iyo tii ka horreysay dhintay marka meeshaasaan tagnay meesha markaan tagnay oo ku qasbanay inaan marka satellite-kii iyo satphone-kii BBC-da aan furto marka madfuucu wuxuu u soo dhacayaa sida roobka barafka hadda Yurub iyo Mareykanka joognaaye barafku markuu daayo waad aragtay meel jiha kasta inuu daadanayo madfaca soo dhacayahayna ma ahan barafkaas oo kale godku ku dhaco ila waqaca ama qof kale ka sii dheer ayuu qodayaa god la eg meeshii markaan tagnay annagii aan waxaan noqonnay in la badbaadiyo kana ha ku dharbaaxo kana haraataha kugu dhufto waa nimankaan u tagnay jawga sameynaya ha sheekadii ahayd Ethiopian dhintaan raadinaynaa noolaan raadinaynaa ayada eeyaa cunay kuwa dhintay waa aragnay laakiin kuwa nool maana arkin si kastaa nagu qaadato meeshii aan tagnay warkii aan dirnay xaaladdu way adkeyd runtii aad iyo aad u adkeyd waa weligii 2 mar waxaan isiro markaan waa markii aan dhiman lahayd maalintaas iyo maalin kaleeto oo 92gii xamar aan joogay labadaas mar waxaan isiri adduunyo waa ka tawaftay marka meeshii aan tagnay waxaan ahayn dhowr idaacadood aljazeera oo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uu ka socday anigoo BBC-da ka socday Ismaaciil Taxta nin la yiraahdo oo uu ka socday warbaahinta Shabeelle iyo yar kaleeto oo العربية TV اللي راح تكسعدي واحد سوينا لكو سميي أنا جميل عندها يقول شوي وروح على قاعدين كنا وعي بحا ومحدل كاني كاميرا اللي جا قاعدي ريكورد اللي جا قاعدي خلين كل قاعدي أنا جا واحد نقول الجواسيس في البيت جواسيس وحبنا مدافع ده ما أنا ضد كي كراتود نماذج كرات دجال لما يتبين كسر جدا أنا جا عدو ما أركبه marka khataraan meesha ku galna runtii aad iyo aad risk u ah aad iyo aad halis u ah maaragtay khatartaas waxaad is leedahay naftaada adaa geliyay maadaama BBC-da ay ku tiri ka joog ha aadin shaqadiisa gelisay khatartaas waxa keenay naftaadu ay gashay oo qalqiisha aad ku soo badbaaday waxa keena waa adiga maadaama BBC-da ay ku tiri iska daa Ethiopia nool ha soo arkine laakiin adiga أنا هذا وحنا وقت عاوان كهذلنا ما دام النفط هذه أي سجتي أو جيري أتكون دواتي أو مالين تسعد ستري لمتى الله له منولد ورياش مقدشة كنا أو شلا وجودن بيس بنبحة هركعي أو ضدكي بنبحة أو وبعد جاي إنه هوب كان يوحنا يدولدان دي بنبحة يعني
yiri waa idinka hor imaanaynaa wariyaashii ku hor ordayay waa isla situationkaasoo kale ayay ku jiraan maxaad u sheegaysaa iyaga marka waxaan u sheegayaa naftiina aniga markaas markii aan sheekadan ku waday BBC-da la hadlay waxa lagu yiri meeshaad joogtaan kugu soo diraynaa helicopter oo wallaahi ah macnaa BBC-du waxay ka mid tahay hay-adaha warbaahinta ee ugu lacagta badan weliba xilligaas waxaa la yiri meesha aad joogto joog isla hadda waxay ka shaqeeyeen safetygayga sidii aan u badbaadi lahaa wariyaashii meesha joogay weliba Yusuf markaas London Nairobi joogay wariyaashii waxay ka shaqeeyeen sidii la ii badbaadin lahaa wax kasta waa ku bixinayaan la yiri warna ha soo dirin meeshaada joog ama meel kale tag oo nabadoo nagala soo hadal maxaa yeelay satellite-ka aan wato markaan furo waxay la mid tahay anoo London joogo waa la ogyahay meesha aan joogo marka laakiin ninka hadda xamar jooga oo idaacad loo kala u waramaya oo laga yaabo mushaarkiisa inuusan u helin xataa si sax ah inuu riski galo waa khalad kuwa waxaa arkaysaa coronavirus isbitaalka dhexdiisa jooga wax u wata ma lahan isbitaalkii joogaa dhexdiisu joogaa qof jiran uu ka soo waramayaa waa soo wada marnahaye ha marka dhibaato runtii aad u fara badanaa jirta wariyaasha Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in uusan jirin war ka qaalisan naftooda inuusan jirin waxaan kuugu darayaa markaan maanta haddaan documentigaas haysan lahaa anigana magac iyo sharaf ii ahaan lahayd Soomaalina magac iyo sharaf u ahaan lahayd laakiin mid Mooryaana oo shaydaana oo aan wadan ahayn oo wuxuu u dagaalamaya aan la aqoon ayaa kaamirooyinkayga qaatay kulgood kaamirooyinkaygaan soo duubtay wixii aan soo duubtay ciidamadii hubkii la qabsaday dad xataa hadlaya wixii oo dhan waa la iga qaatay wax record maanta kama hayo waxa iga qaatay qolihii kaleeto oo aan la socday iyagu isma xukumaan nin raba inuu dhinto xabadaa dhacaysa alxamdulilah ayuu leeyahay horteyda waxaa ku dhimanaysa intaasoo qofood ayaa dhimanaysa wuuba rabaa inuu dhintuu rabaa adigana waraa raadisa inaad dhibato barti waa gagabanaysa asagu maba gabanaayaba marka kaamiradeedii ilaa hadda way ku maqan tahay waxa ay siiyeen aljazeera soo siiyeen oo fahad uu ka socday aniga waa iga qaateen ismaaciil taxta way ka qaateen oo shabeelle ka socday yarkii alcarabiya ka socday way ka qaateen ما هي فكرة إيقاف الجزيرة وجبت بعدي لكن الجزيرة الجزيرة تاجر جرين داوي جرين داوي وجبت بعدي مقاومة فهد وأسوبت بعدي وهكذا وصلت مركان حبر إنك هرجيسا لو كنت جواه تنأمن وجوته ومركان إتري أحمد موسى وهليال وير هذا أيجي أنا هذا كبت بحواي وكشق يسوي وكجوج واي دولتي كلاتنا سيدي وكلاتا أيضا عدو إياكن دولتينا عدو إياكن ها مركز دولتي باش كو أبتر سنانية دولتي فيري دولتي iyo nimankii kaleeto maxkamadaha sharciyada ahaa labadiiba waxay ii diideen inaan shaqaysto dowladdiina waxay dhaheen waxaad tagtay meel aan warkeeda la maqal ayaad warkeeda tagtay iidaa tagtay kuwaanna waxay yidhahdeen waxaaba ahayd jaaduus naloo soo diray laa xawla walaa quwwata illaa billah u fiirsaya aniga marka xagee ku soo haray waana shaqadeydii waa kuwa waa sababta hadda aan America u imid meel kasta la igey meel kasta xaga ka bax dhaba ka tuur jowhar ka tuur baalka muxuu asmara aad Nairobi tag Djibouti tag mar kasta adiga dambilaata ayadoo shaqada la waxa kaaga daran ka dhaxgal Axmed markuu America tagana America isugu tagayo noloshiisba meel saareen oo ma lagu soo celaa masaxab sal lagu galaa aan islahayn ilaa waa qaxooti xaq lahabaabe alla wariyaa satellite computer-ka aawaba soo dhiib computer-ka BBC ku soo dhiib alla ana marqaati ka warninkii niyo ma baxsato ma nabad qabtaa labadii lugood iyo labadii adin ma kugu yeelaan lama dhihin computer-ka keena la yiraahdo ku shaqeeyo soo BBC fiir degesho marka waxaan u baahannahay naftaada wax ka fiican ma lahan naftaada waa muhiim naftaada ayaa muhiim ah marka wariyaasha waxaan leenahay naftiina badbaadiya coronavirus markaa ka waramayso muhiim ma qofka guriga deganaa jira inaad tagto muhiim maahan inaad soo sawirtid wasaaradda caafimaadka ka xigo wasaaradda caafimaadka gabadhaas waa maasha Allah wasiirad aad iyo aad active u ah ayada ka xigo hadaa rabto telefoon u dir
adiga warsameeya warka adiga tiraahda idaacadda ka baxaya muhiim ma haddii kal rules kamar rules ma mari kartid brother rules coronavirus wax ka celi kara ma lahan hadduu kugu dhaco yudan wax ka celi gloves iyo waxba ma celiyaan haddaa isbitaalka tagto marxaladaas u adag tahay marka isbitaalka ha tegnina dagaalka ha tegnina jiidaha hore ha tegnina mas'uulka telefoon u dir ka duuba hadda teknolojiyadaaba timid telefoonkiyaaba speaker leh annaga wagaas 310 wax la yiraahdan ku wareejin abu tosh ayaan wada jiray ha marka hadda anoo halkan joogaan idaacad kasta sii dayn karaa gurigaygan aniga hadda miiskaygan kala hadlay waanaba nakanaaba hadda meeqa wadan meeqa wadan oo kala duwan joognaa America Sweden marka muhiim ma aha Ahmed hal qodob ku darsado walaasha Amina iyo Canab iyo Xasan Riina laada iyo aniga dadka waa ka duwan waa xogaa in yar oo ka duqsana xogaa ralaada marka aniga dadka waa ka duwan oo farsamayaqaan ma hadli jirin waliba hadalka laakiin markii dambe oo dagaalku dhacaan go'aansaday oo aan ogaaday oo dhaayni halkan waa raadii Muqdisho codka shacabka ma dhii weys adiga waxaa ka hadlay nin Soomaaliya oo ku dilay iyo amxaar xumo iska soo weeraray shiina ii kaadi ma sidaa farsamada ugu jirta waxaa kugu soo dhacday inaad war ma raadi suuqa noo sheegay ka dhex gelin suuqa noo sheegay haye idinka muwaadiniintiiniyo waxa fanka iyo journalista waxa soo maray wax yaab la soo maray moogta aamin waxa soo maray raadiye motorkii aan daartay transmitterkii aan daartay FM-kii aan daartay ajaladii waxaan soo qaatay studio-aan imaday kaalab adigu wareekan معارف استعليو موران ولالي هدي كلام أنصار يا صار وريم ماله هستندجي هس كلا صار وصار هس جايلا ودجي كما صار ودجي وكلا صار ودجي وحوريا هذا مال على طول عليك هذا يكون طالع بقربوك سوركس هل كان نقدر يسنى ورادي مقدشو عدك جمهورية الصومالية دولي بكتير الحين كده هي ما غامبه أقول لك في ناس صودا فرق واحد أنا صامرتي أنا رادي مرحبتاس أكو يستأجي هالكاس مرحبتاس أو رادي هسه أستانت أصارته أو شعيرك أصارته ودني أصارته ورينا أوي ودرس الدينية وأيضا قرن صار دجال أشري ورياش دجال واحد صعدني وعركي دولك صعدني وبدي واحد صعد جنبه رادي ودارين هاي لكن قف قريش كصوبه كربة تركي ماله أنا يقول لي أساس ماشي وحنا بقول بدي هبين كان كويد سوما إذا عدى ده ساعات هبين كان كويد مركا واحد أنا اليوم ماشي كويدي وهبين لح ساعة هاي كركي يجوح كي يرجوح أكيريس شو رجس أفرت هذه الدماي إلا ورلس إلا استوديوش وحلقوا بلا مدفع دم 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 أوكي وابحني أنا كي كوح كلا كبحنا ماشي وكبحني واجي بري هذه والله دلدلة هذه اللي بتباشر ربع نقد بينك اللي بتباشر ربع كيف كين اللي بتباشر ربع قلب كين اللي بتباشر ربع ضدكي ماشي كوحكون نقطة اللي بتباشر ربع ورياش مركب وحلقة عن مركز ضدك يحكون عن أنا وأكون عن ما أنت سوي كدم بي الله نحرسته محمد عبد يوسف قينا تقنا دماغ عنه ينلي باشا موسى جمع معلن سويال أمينة تقن باشا موسى وقفتنا هاي باشا موسى جمع هل مالا اللي قد لي أيوة قولي كجرة شر كجرة وقولي بحث أضياش عن كمين هين ولكن هاي ضدك فنك جرانستاشا أمال اللي قولت دقي ضدك ماشا اللي قولت دقي وقيرانس وحيان ما قد أفر لبرنا إنه إفتنا سد حرشادة ويلكاس محمد يوسف عبد الفقوي هالفر سميقان ماشي يكون انتين طلابة كستو ضدك الصوماليات كل عدان وانو داعي جب كستو ضدك الصوماليات كل عدان وانو داعي وحنا وانو ديرين نيو هذه يوم هالسنة محمد أنا ما يستطيع وحنا وانو ديرين مركو وحنا لغا ربا أنا ضدكنا الدفاعينا أنا استدفاعينا دينتين الدفاعينا إنا سميسانو وح أنا وكم ديسانا هاي وان الدفاع هذه وهذا الشيء الجروب كان صومالي ميديا بروفيشنال كاس ضدك الله حل سارو قفك بايجرافيك سلا فيرشو قفك الله فيرشو عدد محل عدين دي سلا فيرشو لو صوبي قفكاس إنه صومالي هي
suxuufina yahay ururada difaaca suxuufadda aan la xiriirno heer caalami ha ahaato heer gobol ha ahaato waxaan intaa noo dheer waxaan daacad ka nahay inaanaan qofna ku xadgudbin qaybtiisa fikirkiisa wuxuu aaminsan yahay iyo laakiin haddii qofka uu halista gelinayo oo ama dalka iyo dadka iyo diinta khatar gelinayo dhexdhexaad ba ka noqon karno intaas le aan ku midowno waa maashantiin aad ayaa umahadsan tahay shiine xasan muuse sabriye waxaa jirtay xaalado adag oo lasoo maray maadaama aan ka hadlayna caawa halista saxafiyiintu ay ku jiraan iyo inaga experiencegeena waxyaabaha aan kala tali karno maadaama waddanka xaalad adag uu ku jiro xilli waxaa jirtay oo aan muqdisho kasoo shaqeynay ama adigu xasan aad kasoo shaqaysay oo weriyaasha target ay ahaayeen oo la dilayay oo yaa weriye arkay halkaan ma maray qofkii weriye soo sheego uu soo sheega diamond oo kale oo in weriye la dilo wax weyn ay ahayd inkastoo hadda xaaladii sidii ay ka duwan tahay marka xilligaas aad fiiriso maxaad ka xasuusataa xilligii weriyaasha la taargadgaraynaya oo muqdisho aad joogtay oo dadkii weriyaasha qaar ay carareen qaarna ay joogeen dadkii kula shaqaynayay oo isku qolka aad joogteen oo isku saxanka bariis ku cunayseen hortaada lagu wada dilay xasuustaada markaad gadaal u celiso ma isleedahay haddii mar hore aad muqdisho ka bixi lahaydeen dad badan ayaa badbaadi lahaa mise waxaad isleedahay inaan soo baxnaba way qaldaneed xasuustaada gadaal u celi maalmihii aad waa mahadsantahay canab waa mahadsantahay horta naf walba xilligeeda ayay go-aysaa dhibaatooyin fara badan waa usoo joognay saaxiibo fara badan waa ku weynay saxaafadda iyadoo hal maalin oo qura ah 2 qof oo saxaafadda saaxiibo aan ku ahayn mas-uuliyiinteena ka mid ahaa aan wada aasnay mahad axmed cilmi iyo cali iimaan allah naxariistee aan labadaba goobjoog u ahaa dhacdadaasi oo xilligaasi oo aan ahaa tifitiraha idaacadda hon afrique oo subax hal saac iyadoo ay tahay waxaan ku suganahay xarunta stuudiyaha saaxiibkay lagu dilay idaacadda horteeda waxaa kaloo jiro dhacdooyin fara badan oo aniga laftirkeyga aan ka badbaaday oo shirqool dil ah oo soo maray marka waxyaabo fara badan ayaa jiray xilligaasina waxay ahayd xilli aad adag inta badan markii aan imid qurbaha ayaa waxaan soo xasuustay in aan ku shaqaynaynay midi af badan korkeeda aan ku shaqaynaynay maadaama dhibaatooyin fara badan aan usoo joogay aniga ayaa isla yaabo iri balse u shaqaynaysay goobahaasi iyo goobahaasi aan u tegaysay maalin aniga oo war ka raadinayo xilligii maxaakiimta iyo ay deysteen argagixisada dagaalanka qoladii la baxday ayaa waxaa dhacday in aan halis fara badan ku galay isgoyska kilomitir 4 anigoo halkaasi war live ka tabinayo idaacadda u tabinayo in halkaasi laygu qabsaday oo qaar ka mid ah wixii dagaalamay qaar ka mid ah ay ugu qabsadeen kadibna aan si dib leh layga soo badbaadiyay oo mid ka mid ah hogaamiye kooxeedadii xilligaas jiray uu la soo hadlay mas'uulkii idaacadda saasna aan ku soo badbaadiyay waxaa kaloo jirtay dhacdo kaleeto oo aniga nin saaxiibkay ah Ways Maxamed Nuur Foodey na qabsatay xilligii maxaakiimta dagaalkeeda ku socday gaar ahaan degmada Balcad ee gobolka Shabeelle Dhexe ka socday xilligaasi oo aan war ka doonay Balcad ayaa waxaan lagu qabtay meel la dhihi jiray xarunta maslax ciidamo al-shabaab oo markaasi ka amar qaadanayay hogaamiyahooda hore geeriyooday iyadoo halkaasina lagu qabtay qalabkiina nala ka qaatay kadibna nala keenay warshada baastada oo xarun ahayd markaasi ururka al-shabaab oo markaasi ka tirsanaa maxaakiimta halkaasi oo khatar fara badan aan ku galnay muddana aan ku xidhnay kadibna dadaal fara badan oo ay sameeyeen mas'uuliyiinta idaacadda iyo odayaasha dhaqanka iyo culamaa udiin oo kamid ah Xasan Daahir Aweys lagu guuleystay in dib aan xorriyadeen ku helno marka dhibaatooyin fara badan ayaa jiray waayo aragnimo xumana way jirtay oo annaga nafteena haystay sida ay Aamina iyo Axmed ba ay sheegeen waxaa loo baahan yahay in hay'adaha iskale suxufiyiinta sida idaacadaha telefishinada inay tababar ay siiyaan saxaafadda si ay naftoodana u badbaadiyaan warar markaas lagu kalsoonaa karna oo keenan ilaa iyo haatan sidaan ognahay saxaafadda waxay ka mid tahay meelaha ugu fudud ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka jooga ay shaqooyinka ay ka helaan iyagoo aan aqoon badan lahayn oo dugsi dhexe iyo dugsi sare aan soo marin heer jaamacadeed aan gaarsiisnayn inay si fudud ay ku tagaan waxbarashadaasi taasina waxay keenaysaa in dhibaatooyin fara badan ay kala kulmaan marka waa dhibaatooyinka way badan yihiin wax halkan lagu soo koobi karana ma ahan marka waxaan kula talin lahaa dhalinyarada suxufiyiinta ee ku sugan dalka Soomaaliya xilligan adag ee doorashooyinka iyo barnaamijyada ay jiraan inay taxadir badan ay sameeyaan sidoo kale mas'uuliyiinta idaacadaha iyo hay'adaha u dooda suxufiyiinta waxaan kula dardaarmi lahaa in ay tababaro ku filan ay siiyaan suxufiyiinta Soomaaliyeed ee da'yarta
وماسن تاي حسن وانا كاغا مهد علينا مركله سيده wanaagsan aad u soo koobtay aamino muuse wehliye hadii aan kugu soo laabto aniga su'aalaan ku weydiiyay isu korta intaad su'aasha intaad igu boobsid ana adiga su'aal ku qaba 2005 bishii May anoo BBC ka shaqeynaya aan ku wareysta adiga haya markaas waxaa dhimatay gabar dhimatay ayaad la socotay shaqadaas ma lagu diray mase sida Axmed sheegayo kaleeta inta ka joog lagu raa adiga gabar ay dunia Allah u naxariista aamino muuse wehliye aad ayaa u mahadsan tahay xasanna hadaa su'aaltaas u dhigantoo kale u weydiiyey horta maalintaas waxay ahayd 5 May 2005 waxay ahayd maalin xanuun badan ma jecli inaan ka hadlo marka aan ka hadlo way dhaawacdaa wayna inta maqdaa waxaan moodaa xanuun nafteeda ku haray inay tahay horta shaqadaas nalooma dirin waana nalooga digay hana aadaninaa nala diiray Allah u naxariistay aniga iyo dunia muxdiino laakiin qadar ayaa socotay naf dhima rabto qofna ma celi karto xaaladan hadda wariyaasha ay ku shaqeynayaan waxyaabaha mar walba aan ugu soo celiya daayana waa sheegay oo wariyaasha hadda aniga Kalson TV aan ka shaqeeyaa qaybta maamulkan ka shaqeeyaa mar walba oo wax dhacaan wariyaasha waxaan idhaha ha aadinina hadda banaanbixii ugu dambaysa oo shala dhacay wallahi ilaaha ogaasaa ugu walwalaya hurdo waa seexa waaye walwal wariyaashaas because xaaladii aan soo maray ayaan xasuustaa maalinta aad i wareysatay xasan muuse wuu ogaa subax kasta hor afliq shir ayaa la geli jiray subax walba markaa imaano shir ayaan geli jirnay marka ay saacada tahay 9 shirki markaan galnay warar badan ayaa lagu soo gudbiyey wararkii waxaa ka mid noqday in wadada u dhaxayso muqdisho iyo afgooye la jaray oo dadkii afgooye qudaarta ka keenayana controlka dhinacaas looga celiyey dadkii muqdisho ka tagana halkan lagu gooyey oo nin magac lahaayo markaas hogaamiye kooxeed ahaa ciidankiisa ay wadada goosteen iyagoo markaas shaqaaqooyin sameynayo because waxaa dhahay ciidamada magaalada ha laga saaro iyo wadanka hal nabad iyo isbaarooyinka hala qaado isbaarooyinka waagaas aad looga soo hortagay marka maalintaas waxay ahayd maalin aad u xanuun badan maalin aad iyo aad aan qalbigayga uga go'in marka shirka arrintii lagu sheegay anigaa markiiba soo boodo waxaan iri anaa aadaya meeshaas Allah u naxariistay dunia capital voice ayay ka shaqeynaysay ana capital voice ayaan ka shaqeynaya Horn Africa waa ka shaqeynayna xilligaas barnaamijka muqdisho iyo maanta ay isu diyaarin jirtay iyada shirka ma soo qayb gelin jirin anaa gacanta taaga waa aadaya Axmed Cabdisalaam wuxuu yiri ilaahay qarasi maya meeshaas waa meel khatar badan especially gabdhaha ma aadayaan xaalad adag ayaa ka soo socoto inuu dagaal ka qarxaa laga yaabaa in xabado ka bilowdaana laga yaabaa wax walba dhici kara ma aadaysid canab yaray meel fadhiiso shirki markuu dhamaaday marka isla shirka inta lagu jiray waxaa lala hadlay Yaxye Cali Faarax oo hadda ah tiftiraha raadiyo Muqdisho Yaxye waxaa lagu dhahay Yaxye adiga xagga tagaya oo warkaas soo fiirinay iskana ilaali qatarta shirki markuu intuu gabagaba ahaa ayaan soo baxay dunia is aragnay already ayadoo warka hayso Muqdisho maanta lagu diray waxay ugu tiri canab let's go walaalay meesha qatar waayaan dhaani cabsi ay gashay marka ama ana aadin ama ana yeelay mayna keen waa aadinay Faarax Beerey aan intaan u tagnay aan waxaan weydiisanay lacag aan taxi ku qaadano Faarax meesha rabnaa inaan aadno xogaa noo dhiib markaas wuxuu yiri ma aadaysin weliba si xanaaquu noo yiri ma aadaysin ordaha warka la raadiya hadda ma xasuusto wax issue kale markaas taagnaa wuxuu yiri israaca carab adna Horn Africa samay adna dunia soo samay capital voice wabillahi tawfiiq ilaahay u naxariistay dunia waxay tiri may waa bixina ana waxaan rahay waa bixina waa baxnay baa waxaan tagnay anagoo meeshii qaabkii aan u bixi lahayn bas ma jirin waxba ma jirin wiil oo dadka baabuurta iskoolada bari jiray oo aan naqaanaa meesha ku aragnay waraa mana geynaysaa afgooye mar kale lacag degad halkaas siinaynaay haa jaf waana qaaday marka bixidaas Allah u naxariistay walaashay ay ku dhimatay ilaahay jannada ka waraabiyo ilaahay waxaan uga baryayaa inaan jannadii mar kale isku aragno go'aan anaga aan qaadanay qondarada hadda laga sheekeynayo oo nafta qatarta la gelinayo warar wuxuu ahaa xasaasi ah waxaan rabnay inaan capital voice na live usoo galno muhiimadda ugu weyn waxay ahayd barnaamijka Muqdisho iyo maanta intuusan ka bixin inaan live usoo galno oo aan soo tabino marka xaalad adag ayay ahayd waxaana keentay experience la'aanta wariyaasha
xilligaas ay ku shaqaynayeen haddana kuwo kaloo nala mid oo sidii saxaafadda u jecel inaad wax xasaasi ah soo gudbiso wax kasta ayay ka weyneen marka aamino maalintaas waxay ahayd maalin aad u xanuun badan oo ina soo martay waa baayan allah u naxariisto laakiin waan xasuustaa inaan markaan ku wareysanayo xataa adoo aad u murugeysano marmar codkaaga inay ooyin ku jirto aad moodeyso aad la hadashay inta dhimata allah u naxariistaha inta dhimata allah u naxariisto qof saaka isla quraacateen isla joogteen shalay isla qoslayseen dadka isaga dhaweyseen israacdeen idinkoo wada faraxsan sadal xabad ninka xabadda markuu soo riday aniga waa baryaye ma isdhayn qof ay dili kartaa I don't even believe intay ugu dhacday inay dilayso ama duniya dilayso laakiin qori lagu soo taago waa ujeedaa markuu qoriga nagu soo point gareeyo waxaan ku dhahay hanugu ridin baabuurkan saa qoorta kala bax dum hal xabada soo rid anaa markii qayliye aad aan qayliye markaasay sasintay dhinacii kursiga hore fadhisay waxay ku dhahday ana ma kugu dhacday xabadda ay dhahaysana bis waase ii qabsatay gacmaheeda gadaal ayada nafti way ka baxda ani markuu waa rumayso waa in nafti ka baxda wala soo xaalad adag ay ahayd xabaddu way ku jirto waa minute laakiin ma dareemi kartid ilaa wixii ay kugu dhacaan maalintaas wixii ka dambeeya waa ku dhiiro waaye xabadda ilaa haddaa maqla anuu halkan joogo xamar joogin waa aada uga baqaa ka hor ma baqi jirin markii meel dagaal wax ka dhacaan ama qallaase ay jiraan ama wax ay jiraan waxaan ka fakeri jiray warka xiisaha leh laakiin hadda waxaan ka fakeraa inkastoo hadda aan reporter ahayn waddankiina aan joogin kadib oo dhan waan kasii shaqeeya hoon afiig inkastoo allah u naxariistay cali imaan uu iga joojiyey inaan wararka banaanka doono ugu yiri waxaa rabta ka qaba idaacadda hadda agaasimaa tahay canab hadda agaasimaa tahay xilaa ku saaran xilaa kaa saaran saftiga wariyaasha ku shaqeeya oo agaasimaa ka tahay u shaqaynaya ha aad iyo aad waana amarkii ka yeelan aysan adin meelaha khatarta maya wariyaasha waa saaxiibaan nahay tiimkaas la shaqeyno aadaan isaga wareynaa waa ka tashanaa markii waxyaabahaasaan oo kale ay dhacaan anigana waxaan ku haddaana tiri shalay inta dhahay adinay aad tiri maya ma ku dhihin no aadaan uga wada hadalnaan ku yidhi arrintaas in aan sidii ugu fiican waan u wajihi lahayn waan u wajahanay dhibaatan nagama soo gaarin wariyaasha aad ayaan uga warqabaa waxaan ku yidhi waa u damqadaayo marka waxyaabahan oo kale iyo xabadda iyo xaaladaha adag la wajahayo mar walba waa ka wada hadalnaa waana shirnaa aaminana tiimka aan isla shaqeynay ka mid tahay kalsan tiifiye ka mid tahay groove aan leenahay xaalada ka wada hadalno marka wixii aan soo maray ma rabo qof walaalkee ah oo saxafi ah inuu maro xaaladii ugu dhacdo ma rabo qadarta waa xaggeeda laakiin aniga intii aan awoodo oo karaankayga ah waxaan rabaa inaan caawiyo wariyaasha iga dambeeya amaba kuwa ila shaqeeyo oo markaas aan madaxda u ahay ما شاء الله هذه ما سنت آمنة سؤالنا ويديسي وإدم قيسة لا نحرس الدنيا محدنا آمين إلهها ونحرس سبحان الله واحد استعمال أنت وجوه رئيسي وأنا أديك أسمع مقلنا إهد حالة نوعاسة عن اسمه مقلنا إهد هل سؤال آمنو عمدو رر الله أكبر هيستان شيك آمن غاش آمن موسى إيش شو ما دربت هذا عمالي تعبت لما جيت على يدي حردين وردني لميرو عدو حكا بيقتا عدو غير قوشان عدو حكا بيقتا دفاعنا عدو حكا بيقتا ناموس لوينك ها وات هيست ماشيك إذا ذقينا ها هيجا وعقيبة اللي هيستنا هيجا واي بليش كواي ها وردد اللي ميرو ورياشو عدو حكا دقتا ورياشو عدو قد دفاعدان عدو حكا دقتان عادلنا على قد دفاعدان عدو حكا دقتا هسه ينايا هسه نايا أنا بعرف برنامج كدادين لسه أيه دمي هسه بوي أنا بعرف برنامج كدادين لسه قبلنا برنامج كقسنا معها محيطه ستاندر معها لكن أنا بي هذا ويل كان هسه هذا دارا كيرو تارورياشة سوماليات شقة علوس السوقوهيس وهلس wax kastaba yeelkeeda horta position koodi wariyanimo inay qoryaha cayayaanka baraha bulshada la yiraahdo ka difaacdaan horta sugaysa
iyo BBB waaba isku qasmeenba way isku qasmeenba nin qabiilkiisu nin ee xukun haya difaacaya iyo adiga isku mid camalaa noqoteen dadkii ma kala garanayaan ya marka horta wariyaasha waa inay positionkooda difaacdaan waa inay muujiyaan inay professionals yihiin oo aanay ahayn dadkan meelaha iska hadlaya ee bilaa xirfadda mar kalan ku celinayaa hay-adaha oo warbaahinta dadka iskale waa inay xil iska saaraan bedqabka wariyayaasha u shaqeeya canab adiga waxaad ka hadlaysaa xabad soo dhacday iyo qof dhintaa ka hadlaysaa mental healthgooda iyo emotional support ay u baahan yihiin wariyaasha hadda shaloo kaleeto wariyaasha shaqaynayo shiftiga ku jira ee xabad la isaga furay iyaga iyo dadkay la socdeenba maantoo kale waxay ahayd inay nastaan counseling la siiyo psychological support la siiyo emotional support la siiyo ahayd maaha anaka haddaan dhul gaal ku noolnahay inaan sida gaalada u hadlayno laakiin waa wax loo baahan yahay waa shalana waa u baahnay markaa waddanka gudihiisa joogna maantana dadka wariyaasha ah oo waddanka gudihiisa jooga waa u baahan yihiin abaayo midda kale waxaa loo baahan yahay wariyaasha adduunka waxay qabaan wax la dhaho diiwaan wariye walba oo soomaaliya waa inuu diiwaan samaysto waa inuu qoro daily lifekiisa wixii soo maray waxaas hadhowta aqoon bay isku bedelayaan buugaag aqooneed bay isku bedelayaan oo wariyuhu hadduu buug ka dhigo wallaahi oo waxaa u noqonayo weliba lagu tartansiiyo diiwaanadooda mar kale waxaan ku celinayaa waxaa loo baahan yahay institutions iyo hay-ado warbaahineed oo madax bannaan oo ka shaqeeya xuquuqda shaqada ee wariyayaasha xuquuqda aadanaha ee wariyayaasha xaqooda benshinkooda markay gaboobaan marka ay xanuunsadaan markay gacmaha iyo ka go'aan ee shil ku dhaco waxaasoo dhanaa walaalay loo baahan yahay kowdhe si lagu baramood garayn lahaa iyo si lagu samayn lahaase ani keligay ma aqaano oo hadda maanta waraysigan kuma soo koobi karo laakiin adiga waxaan kaaga mahad celinaa inaad fursadaan oo kaleeto na siisay because annaga badanaa problems kale waxyaabo kalaa ka hadalno kama hadalno waxa annaka weriye ahaanna qusee kama hadalno waana mahadsan tahay walaalahay kulli idinka dhan waa aada u mahadsan tihiin anagana idinka baxaan jeclaa lahay hadday suurtagal tahay soo gabagabaynaynaa nala soo gabagabay waa gabagabada joognaa axmed muuse cabdulle idaa waqaca su-aasheeda ugu dambeeya oo aan ku weydiinayo waxay tahay maxaad ka leedahay milkiilayaasha warbaahinta in ay ka sameeyaan xaquuqda wariyaasha la shaqeeyo in badan oo wariyaasha ka mida waa la dhaawacaa qaar sidii horeba aan uga dhawaajinay inta la dilo markii la dilo hadhow ilmahoodii xitaa wixii ay cuni lahaayeen laga fakaraa marka dadka milkiilayaasha ah oo idaacadaha sida goonida loo leeyahay amaba wariyaasha dowladda u shaqeeya oo kale hadday jiradaan ama dhaawacmaan ama wax ku dhacaan maxaa la gudboon dadkaas milkiilayaasha ah oo wariyaasha ay u shaqaynayeen maxaad uu sheegi lahayd waa su-aal muhiima una baahan in arrintaas baarlamaanka soomaaliya uu go-aan ka gaaray sababtu waxay tahay ridistii dowladdii dhexe ee soomaaliya kadib ma jirin nidaam shaqaale oo la raaco iyo xuquuq shaqaale oo qof ku xisaabtami karo marka waxay ku xiran tahay systemka waddanka aad joogto tusaalahaan aniga waddankan hadda aan joogo waxaa jira waxyaabo kala duwan haddaan shaqada dhexdeeda ku dhaawacmo haddaan bannaanka ku dhaawacmo haddaan xuquuq ayaa jirta uu qofka shaqaalaha leeyahay marka waxay ku xiran tahay dalka la joogo iyo hay-adaha shaqaalaha ee ka shaqeeya ee lebarka ah ayay ku xiran tahay milkilaha keliya kuma xirna marka milkilihii waa inuu haysto cid uu ka boqo iyo dowlad maamusha iyo nidaam uu raaco hadda halkaan aan joogaa 5 beri aan shaqeeyaa 2 maalmood of aan ahay tusaale ahaan weeye marka waxaan leeyahay xaq ayaan leeyahay dowladda ayaa lacag iga jaraysa lacagtaas social security markaan duqoobo oo aan beeshi noqdo ayaan qaadanayaa gurigayga anigoo jooga marka waa nidaam dowlad iyo hay-ado gaar ah ay ka shaqeeyaan wey laakiin waxaa muhiim ah qofka warbaahinta iska leh markaas jooga aniga waxaan mahad ballaaran u celinayaa cali imaan sharbaakana ilaahay jannadii firdaws ha siiyo axmed cabdisalaamna maaragtay cimri dheer iyo cibaado suban allaha siiyo wax xumaana weligay kalama kulmin nairobi aan uga soo warrami jiray $200 aan qaadan jiray weligay laguma dhimin 1 bishaan qaadan jiray hadalkayga iyo waraysiga aan keenay iyo warka aan keenana top ayay ahaayeen markay magaalada yimaadaanna waa ay casuumi jireen waa ay qada geyn jireen mar walbana intay soo wacaan niyadda waa ii dhisi jireen hawsha culus oo aan ku jiro aad iyo aad ay u fiicneed runtii maaragtay hadda BBC-dana waxayba ahaydba hay-ad British laga leeyahay oo iyaduna xuquuqdeeda iyo danaheedu gaar ayay ahaayeen
marka laakiin idaacadaha kale tviyada ah iyo warbaahinta qofkan ilaahay uga cabsada cadaalad ku shaqeeya nidaam ku shaqeeya xataa ayuuta geliya qofka wariyaha ah mushaarkiisa xataa $10 ama $5 meel u dhiga xataa halka sano ama 6 bilood oo hore oo qofkaasi uu weli xusuusteena uu kusii jiro si ilmihiisa ay usii qaataan midda kale waxaan codsan lahaa wariyaasha soomaaliyeed ee maantay fursadda u helay inay dibadda yimaadaan ee shaqaysanaya ee yurub iyo maraykanka iyo carabaha iyo afrikada kale nabaddaa jooga inaan ka fakarno wariyaasha kale ee walaalahaya ah ee dhintay guryo ilmihii ay ka tageen xaasaskii ay ka tageen qaraabadii ay ka tageen hadba waxaan u heli karnaa ugu yaraan maalmaha ciidda ah maalmihii hadda yaasmiin aan u aruurinaynay lacagta aad ayaan u faraxsanaa waxaa meeshaas ka dhalatay wariyaashii kale dhintay inay gabdhuhu lacag u aruuriyaan annagoo idinka lacag badan oo shaqayna waxba nagama aadna soo doonin idinkaana asturay khayr allah idin siiyo aad iyo aad u mahadsantihiin in maaragtay aan noqono dad isku tiirsan isleh isku beel ah isku hal far ah wariyuhu uu wariyaha kala difaaco maaragtay ilaaliyo mar walba war meeshaas waxaa ka jira dhib war meeshaas ka bax maaragtay sidaan hadda aad nala sheegayo kaleeto la yiraahdo wariyaha wixii kusoo socda loo sheego la yiraahdo war meeshaas qofka ku raadinayay misaal waa la sheekaysanaa ninkaan aduu saaxiib kula yahay laakiin wariye kale uu haystaa uu rabaa inuu dilo marka waa inaad sheegtaa oo tiraahdo hey wariyihii waxaad tiraahdaa waraa hebel meeshaas ha isku tegin ka tag u sheeg adigana saaxiib kulama ahane wax uun baa kaa celinaya markaas ama taadiyaan gelin ama sibuu kaaga xishoonayaa laakiin wuu kugu sii qarsanaya wuxuu leeyahay hebel nama taageersana haddaa maqasho macnaheedu waa wariyahaasan u socdaa wey ama wuu xiraya ama wuu dilaya ama balaayo kale ku samaynaya marka inaan iskaashano meel walba oo aan joogno oo aan maaragtay dad isle oo hal walaal aan noqonan kusoo gabagabeyn lahaa aad ay amaasan tahay waxaan siinayaa aamino ugu dambaysiinayaa shine adoo wax yar soo koobaya maadaama barnaamijka xilligan waa kooban yahay canab aad barnaamij fikradaada khatar waaye allah ku darajeeyo qalbiga allah nuursho fikradda keenta waa fikrad khatar waaye hal farsamaan ku daraa bes laakiin milkiilayaasha iyo shaqaalaha iyo soomaalida kulligeed waxay u baahan yihiin dad ahlu digriyo oo difaaci kara oo wax isku samaysan kara marka fikradda aad bilaado waxaa laga rabaa adoo meeshaa ka shaqaysa ka bilaabaya aamin ay meesheeda ka bilaabayso anoo aan meesheeda ka bilaabayo idaa waqaca meesha ka bilaabaya xasbis ka bilaabay xataa nimanka mataqaan iskale mataqaan raadiyaasha iskale aa u baahan in la difaaca baa ayay qudhiga rakaatadiina gula jiraan wariyaasha keliyii maaha kulli wax kastoo waxaan habay hadda maanta xamar gabel lagama tiri karo difaac ay u baahan yihiin هذا ما شتيم هذه أمهاتن تهاي محمد عمر شينو آمنة موسى وهلية أي برنامج كينو سوق من قبينيسا آمنة وجدك برنامج كان حسن سبيا سوق لي هذا فرصة سينشة حسن سودو حسن شيء حسن أذيك أيام كسينا يا مدام آمنة أي تهاي معمدي ميديها أو أهرب لنا برنامج كينو صحرته لا يوم الدنبيان أي تهاي حسن xaaladihii adkaa oo aan lagu soo shaqeeyay waan ka warramay experience badan ayaad haystaa barnaamijkan waa soo gabagabaynaynaa su-aashaada kugu dambeysa ayay noqonaysaa middan wariyaasha maxaad talo u diraysaa waa ku bilownay waana kusoo gabagabaynaynaa xaaladahan adag oo hadda lagu jiro adoo mawduuca aan ka bixayn oo xaaladaha xilligan lagu jiro ee doorashada wariyaasha maxaad u sheegi lahayd inay ku wajahaan qaab noocee أنا بقى ما سنت هاي ودمينتي طلبة أقصد جدنا ورياش واحد تهاي إن أي نفتو ذا أي كتحديران واحد وقع لسن شيء بين آدم وقع لسن والنفطة بقى هدي ونفتي سبب باديو كده وحدتك وقع من كره لكن نفتي سهدي ويو dadkan waxba uma qaban karo isagana adduunyadii uu ka tagayaa marka taasi waxaan kula talin lahaa in marka ugu horeyso koow ay ka taxadiraan naftooda ay xisaabiyaan oo ay ku xisaabtamaan meesha ay tagayaan goobta ay tagayaan qatarta ay leedahay waxyaabahaas oo dhan inay ka taxadiraan kadibna ay bulshada usoo gudbiyaan waxyaabaha socda sida barnaamijyada iyo doorashooyinka marka taladeeda ugu dambayso anigoo marka badinayn waxa ay tahay fadlan wariye ka taxadir naftaada kadibna bulshada usoo gudbi warar tayo leh inkastoo ay jiraan tababar la'aan aqoon la'aan iyo dhallinyaranimo kasta ay jiraan ayna ku barbaareen waddan dhibaato fara badan ay ka jirto waxaan kula talin lahaa inay ugu horreyn naftooda ay ka taxadiraan oo ay badbaadiyaan waana mahadsantihiin aad ayaa u mahadsan tahay qadiijo qalanjo oo ka mid ah wariyaasha soomaaliyeed gabdhaha saxafiyiinta rugcadaaga ah
xilligii fogaa soo shaqeeyay waddankana usoo dadaalay weliba qadiija qalandi weliba kaydka cajaladaha ee tisad samaysay gabadhaas iska ilaalish waxay soo qoraysaa khadiija qalanjo qaar badan oo wariyaasha ka mid ah ayaa jira oo aan wax xuquuq ah helin waa runteed qaar badan ayaa jira oo xitaa baawaraacooda aan helaynin oo khatartaasna ku jiro qaar badan oon meelna u shaqaynin oo iyaguna ugu horeeya oo khatar gelinaya waxaa jira hay-ado badan oo saxaafadeed tiifiye iyo raadiyaal wariyaasha yiraahdo si friya ku shaqeeya commission kaliya nagula shaqeeya waxaa keensata wax ka qaada annagan wax noo keen ayadaaba kamid ah sagaashan iyo labo sagaashan iyo saddex sagaashan iyo afar mushaar meesha qaada maya dhib male waxaas private waa marka khadiija qalanjo waan ku salaamaynaa waana mahadsan tahay sida barnaamijka caawa aad noola joogtay inkastoo aan jeclayn in halkan shashada nagala soo qayb gasho aamino muuse weheliye ayaan barnaamijka kusoo gabagabeynayaa aamino maxay tahay baaqaaga ugu dambeeya saxafiyiinta maxaad u sheegaysaa walaashood ka weyn gabadhii saxaafadda uga soo horreysay riskiga wax badan ku egeed waayo arag badan ahayd wariyaal badan oo dhintay kuwo la dhibaateeyey kuwo la jir dilay iyo kuwo mentally wax usoo gaareenba maxaad dhihi lahayd xitaa waxaa jira haddii su-aasheeda iska sii dheeraata aamino wariyaal waxaa jira disable oo gudaha joogo indhaha wax ka arkayn waxaan arkaya kuwo wheelchair ku socdo oo gudaha muqdisho ku shaqaynaya xaalad naga dambeysa ayay ahayd wariyaashaas maxaad tala guud siinaysaa aamino horta disability-gaan ka bilaabay disability is not inability hadduu qofka uu disable iyo naafa yahay macnaheeda maaha qofaan waxba tarayn oo finisha ma aha marka laakiin wuxuu u baahan yahay wax la dhaho work support qalabka uu ka shaqayn lahaa because hadduu wariyuhu yahay wariye naafa ka adimada kaleeto lama mid aha kan adimadiisa ku cararaya marka waxaa loo baahan yahay in gaar loo eego waxa kaloo aad u xoojinaya aniga maadaama aan cilmi nafsiga barta markaa bannaanka u soo baxay in wariyayaasha la siiyo moral emotional support mental support in la siiyo waxaan xoojinayaa oo mar kale ku celinayaa in hay-adaha wariyayaasha u shaqeeyaan war haba yaraata hadday doonto $100 ku shaqaaleey ama 2 ku shaqaaleeya inuu jiro wax contracti ah inuu jiraan wax contracti ah oo laga saxiixado oo la saxiixataan inay jiraan qofka wariyayaalow idinkana contract la'aan ha saxiixina khaasatan wariyayaasha gabdhaha ah ee iyagu riski ka badan kan wiilasha ku jira oo xitaa jirkooda marmarka qaarkood lagu xujeeyo in shaqo lagu siiyo waxaas wariyanimo maaha caana saas laguma noqdo yaan lagugu xujaynin teknolojiyadda wariyaasha ka faa'iidaysteen wariye walbow shaqayso laakiin teknolojiyadda dhinac ka faa'iidayso waxbaro koorsooyin free ahaa jiro canab haddaa rabta adiga annaga hogaamiya hadda noo tahay gruubka cusub ee aan rabno inuu gruub weyn noqdo oo suxufiyiinta qofka samaysa adiga waa kuu soo gudbinayaa waxaa jiro meel kasta oo aad joogto koorsooyin la saxiixi karaa jiro oo wariyaashu ay free ku bara karaan oo online wax isbara aqoontiina kor u qaada moor aqoontiina ee kor u kacdo garaadkiina iyo xuquuqdiina aad fahmaystaan waa ogahay gaajo badanaa jirto waa kusoo shaqay jira aniga waana ogahay kamana weyne laakiin wixii aan xog ogaalka u ahaa waxaan rabaa inuu isbedel ku yimaado inay meeshooda iska taagnaadaan mar rabo waayo gaajo waa jirtaa laakiin waa inaad maaraysaan gaajadiinna iyo shaqadiinnina isku sargoysaana loo baahan yahay baahiyaa jirto waa ogahay tababar xumaa jirto waa ogahay amni xumaa jirto waa ogahay warwariyayaasha meel walba kaamerooyinkaa laga jajabiyaa kuwan britishka iyo kuwa waddankan joogo oo boliis leh oo xuquuq leh oo wax kasta leh kaamerooyinka waa laga jajabiyaa mararka qaarkood okay idinkana aqoontiina kor u qaada ethiga saxaafadda oo la sheegayo muhiim ma noqonayo haddaada xuquuqdaada aydan dhowray wariyaha haddii xuquuqdiisa dhowray ethiga u ilaali kara waxay tahay ethiga u ilaali kara ma laha marka waxaa aniga aan ku talinayaa kuweena dibadda u soo baxana yaana la ilaawin kuwii gudaha jooga wixii laga roon yahay ha loo sheego tababaro free ah haddaa sii karno hala siiyo qofba qofka wuxuu ka roon yahay maaha anaa kaa aqoon badan ee wax ku baraya kaalinta soo fariisa maaha laakiin trainer of trainers wax la dhahaa training of trainers wax la dhahayaa jiro adduunka oo dhan TOT system aan samaysano ani saasay ila tahay markaa urur samaysataan ha isdagaalina
afar qofoodoo tihiin oo isku jaha u jeeda ha isku dagaalina ururka yareed samaysataane ururka yareed samaysataan meel gaarsiiya ani ilaa hadda waan la ahay urur saxaafadeed oo Soomaali ah oo wanaagsan oo xuquuqda saxaafadda saxafiyiintu say tahay uga shaqeeyo wallaahi oo billaahi oo tallaahi ma arko waxaan arkaa mid la isku dirsayo hoggaankiisa mid ninka hoggaanka ka ah oo 30 sano ka dagay sida dictator mada oo wadanka qabsado kale mid maanta oo dhan la iska daba raac hebel ma aqoonsan waxaas ma shaqeynayaan waxa loo baahan yahay furfurnaan waxa loo baahan yahay transparent waxa loo baahan yahay in la isku turo ya waa ogtihiin shalay 2-3 wiil ka hor gabar walaasheena oo xanuunsan ayaa annagoo dhowr wariyayaal ah wax sadaqa u ururina waxa ununka awoodnana ugu darnay bal fiiri dadku markay midoobaan awoodooda intay la egtaa fiiri wax weyn waa marka aniga waxaan laba dadaalba kuwa iska leh hay'adaha oo saxaafadda badana suxufiyiin ma aha waa ognahay kulligeen ma aha suxufiyiin ma aha waa niman ganacsi ah oo ganacsi ahaan u furtay alright waa ogolnahay inay u furtaan ya madog ba halkan joogo oo isagaba aan suxufi ahayn laakiin inta soo wargeys iskale oo wadanka Britain iyo adduunka inta iskale ka soo baxa ya Berlusconi soo maray oo ra'iisul wasaaraha oo hadana media owner waxa soo dhawaa la ogyahay yes media sometimes could be business laakiin ilaaliya xuquuqda suxufiyiinta idin shaqeyso suxufiyiinta idinkana waa inay jiraan warqad yarba ha ahaatee wax yar oo la idin saxiixay hadaa dhimato maxaa noqonee ilmahaaga maxay helayaan hadaa gacmaha ka go'do hadaa adoo shaqeynaya dhaawacanto maxaa dhacay waa in xuquuqdaada dhowran tahay waa xuquuqda hadii la yiraahdo mar walba maya wadankii nabad maaha marka xuquuq lama ilaalin karo waxaas war maaha wadanka dawladda uu leeyahay system uu leeyahay wasaaradda warfaafin uu leeyahay media law u qoran wax walba u qoran waxaas hadaan laga shaqaysin oo maal walba laga yiraahdo wadanka nabad maaha wadanka hebalow maaha wadanka kabalow maaha ma soconayso waxaas wixii asdaba qabsanayaan marka aniga waxaan qabaa hal la dadaalo xagga iyo xaggaba hal loo dadaalo waana mahadsantahay aad iyo aad mahadsantahay aamino anigana kelmadeeda u dambaysa waxay tahay wariyaasha naftiina ka hormariya wararka aad doonaysaan xaaladda adag iyo dhibaatada lagu jirana u wajaha si aqliyeysan idinkoo markaasi naftiina ka taxadaraya aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiin walaalaha barnaamijkan igala qayb galay saxafiyiinta qaaliga ah oo bulshada hormuudka u ah oo ugu horeeyo أحمد موسى عبد الله إذا وقع أو عاو برنامج كان سودينتي سنوصر تجليه أو نك فرصنا نجعاويه حسن موسى سبرية إيو ولبا محمد عمر شينة أمينة موسى وهلية إيو أنا دمان أنتي نقلا قيب قادتي وذا بهالسنتين تاني أنت أن برنامج كان حاجة أو كل مدانه سدا إيو نبتدليه